kusoo dhawaada Brown Library iyo lecture-kii toddobaad caawa oo ka hadli doona dhaqanka iyo haweenka. Dabcan markaynu dhaqanka leenahay waan garanaynaa inuu dhaqankeena bulshada Soomaalida aan u jeedno. Marka kolliba marka ugu horeysa waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa laba mowduuc oo midna waa dhaqankii midna waa haweenkii. Marka dhaqanka waxa abuura ama samaysto waa asal raac iyo isawrac u yahay bulshada. Bulshadiina waxay ka kooban tahay labada qaybood, labada jinsiye, labka iyo dhadiga. Marka haweenkii waxa weeyaan qayb ka mid ah ama waa badh ka mid ah bulshadii. Marka waxaan isla eegaynaa ka waran haddii dhaqanku uu tusaale ahaan cadow ku yahay qayb bulshada ka mid ah jiraalkeeda. uu marmarka qaar xaqirayo kaalintooda bulsheed waa doorkii bulshada ku leeyihiin. Marmarka qaar uu jiritaankooda kasoo qaadayo wax liita ama hooseeya ama wax yar. runtii waxa weeyaan wax aad u adag ma qofka ma garanaysaa bulshada kale iyo qofka dumarnimada dareemaya labadaba ay ku tahay dareen adag. sidoo kale waan wada ogsoonahay dhammaanteen dhaqankeena iyo qaabka horey ama dambeetaba qaabku ula tacaamulo haweenka siduu qayb weyn uga yahay arrimaha dhacaya tacadiyada dumarka loo geysanayo siduu qayb weyn uga yahay waxaas oo dhan markii ay dhacaan sidii qofka dambiilaha looga xaalmarin lahaa dhaqankeenu siduu u kaalmeeyo dambiilaha sidoo kale dulmanahana uu sii dulmiyo si weyn baynu u ogsoonahay. Marka dhaqanku maaha wax muqadas ah oo aan la taaban karin. dabcan waa wax ay bulsha dejisatay wixii markaa aan nolosha bulshada iyo diiniyanba aan waafaqayn waa wax laga tegi karo. markaa muxaadaradan caawa waxay noo soo jeedin doonaa Cabdiraxmaan Xuseen Daawud oo martida caawa barnaamijkan. haddii aan Cabdiraxmaan iskiin baro Cabdiraxmaan waxa weeyaan Cabdiraxmaan waa falanqeeya arrimaha dhaqanka iyo bulshada. dhaqanka weliba iyo siyaasaddu aad u sii daraaseeyaa sidoo kale buug buu ka qoray isla arrimaha naftirkooda. Cabdiraxmaan waa double master wuxuu ka diyaariyey mid health and human service administration sidoo kale counseling and physiological service sidoo kale bachelor of art wuxuu ka diyaariyey political science and global studies. Cabdiraxmaan baa caawa aynu mowduucan u kala baxaynaa. Cabdiraxmaan soo dhawow sidoo kale waxaad haysataa 40 daqiiqo soo dhawow walaalo. walaalo khadija aad baad u mahadsan tahay. walaalo khadija aad baad u mahadsan tahay adiga iyo baraarug library ba dhammaantiin ba wada mahadsan tihiin. ilaahay khayr tusiyo barnaamij fiican baa wadaan. waxaan halkan ka salaamayaa daawadayaasha halkan ka salaamayaa dhammaantood. kolle waxaan u maraynayaa barnaamijku walaalo aad buu u dheer yahay oo يعني waxaan ka wadaa waa mowduuc aad u qoto dheer runtii oo haddii la dhex galo laga goyoon maayo. buugeygana aanu bixiyo dhaliisha dhaqanka Soomaalida cutub dhan baa ku jiro leeyahay dhaqanka Soomaalida iyo tacadiga haweenka waa cutubada ugu dhaadheer buu ka mid yahay. barnaamijyada waan ka duubay oo waan ka sameeyay. marka waxaan isku dayayaa maadaama uu aad u fara badan iyo aad u ballaaran yahay inaan guud mar ku sameeyo. marka dhammaantiin idinkoo mahadsan aad waxaan idinku mahadcelinayaa inaad igu soo casunteen. waxaan dadka doonayaa inaan u bilaabo barnaamijkii insha Allah. waxaan ku bilaabayaa haddaad u fiirsato tusmada PowerPoint-ga aan ka sameeyay laba qaybood baan u qaybiyey. qaybta hore waxa weeye waa noloshii miyiga oo ah meeshii uu ka soo aasaasmay dhaqankeenu oo meeshii uu ka soo aasaasmay tacadiga haweenku. qaybta dambena waxaan u gelayaa magaaladii iyo qaabkii magaalada looga noolaa. sharaxaadda marka aan bixinayana meesha aan anigu sharaxaya waxa weeye kaalinta ay haweenku kaga jiraan dhaqanka Soomaalida oo anigu aan arko in tacadi qeyr caadi oo aad u fara badan uu dhaqankeenu ku hayo. tacadigaasoo aan ku salaysnayn diintii Islaamka.
marka si aan u galo barnaamijka waxaan inta hore soo dhirnaa waayo markaynu doonayno inaynu fahanno tacadiga haweenka dad fara badan oo aanu ka sheekaysanay waxaad moodaa inay u arkaan ay u haystaan tacadiga haweenku in ama inanta marka lagu kufsado ama nabar lagu dhufto ama wax dhacaanun inay tahay laakiin taasi haddaanay jirin oo sidoo kale caadi loo wada noolaya inaan wax tacadi aanay jirin taana waxa sababay walaal waxa weeye dhaqankeena muddo aynu ku soo korray ayaa de laynaga dhaadhicin inuu dhaqan saxan yahay waad ku kortay waad ku dhalatay waxaad u aragtaa noloshu inay saa ay tahay ku saxan tahay cid diidaysa maad arag cid kasoo horjeedaysa maad arag gurigii baa lagaga dhaqmayaa aabbaha iyo hooyada iyo walaalaha iyo jiiraankii iyo iskuuladii meel kasta lagaga dhaqmaya taasi markay dhacdana qofkii waxay ku kalifaysaa inaanu aragba oo yani u arag wax dhibaatay inay haba yaraatee aanay jirin laakiin si aynu haddaba bal u fahanno in tacadi jira iyo in kale waxa muhiima inaynu dib ugu noqonno meeshii tacadigani uu ka soo bilaabmay oo ah baadiyihii iyo miyigii aynu deganaan jirnay waayo dhaqankeenu meeshu ka soo bilaabmay waa miyigii dhaqankeenina wax fara badan oo aad u badan lama bedelin kii baynu magaalada la soo degnay oo dee waxa ku tusaayo kaaga filan oo keliya sida qabiilo saynu weli u nahay ummad ku dhisan qaab qabiyaaladeed oo qabiilo aynu u kala dhisanaho ilaa magaalooyinkeena aad aragtay in qabiil loo kala degay marka wax badan dhaqankii waxyaalo yaryarunba caadooyinunba miyiga lagaga yimid haddaba si aynu u fahanno dhaqanka soomaalida waliba qaybta tacadiga haweenka waxaan in yar guud marayaa meeshu ka soo bilaabmay in yara sabra meesha marka aad fahanto si dhiiba u fahanto ayaad arkaysaad fahmi kartaa magaaladii waxa yaalay waayo waxaan ku horeynayaa miyigii nolosha miyiga markaynu u fiirsano min fadlikum waxaan idinka codsanayaa inaa intaa iyara sabirtaan intaa aad fahantaan waa meesha ugu muhiimsan haddii uu qofku fahmo in uu fahmi karo waxa meesha maanta waxa ina dhex yaalla iyo haweenkii soomaalidu maanta tacadiga lagu haya intuu leegi miyiga markaad ku noqono miyigu wuxuu ahaa oo dadkeenu had iyo jeer dee waxaynu dhaqan jiray xoolaha nool waxa ugu fiicnaayo weliba dadka degan miyigu waxay geela ayaa ugu qiimo badnaa waayo geelu wuxuu ugu qiimo badnaa sababtu waxay ahayd geelu wuxuu u adkaysan jiray socodka iyo haraadka iyo gaajada iyo wax walba geelu wuu u adkaystaa geela in la jeclaaday ayaa waxa ku tusayaa meeshii iyo degaankii lagu noolaa degaan adag oo dhib leh inuu ahaa markaad u timaado soomaalida tirada yaree beeraleyda ahi lo' bay dhaqataa lo'du ma xajiso haraad la'aan iyo gaajo toona marka meelaha ay degan waxay ku tusaysaa inay barwaaqo tahay so kow miyigii markaa maadaama nin dhulka adag ee qorfahaabuu ahaa waxa ku yaraa baadka iyo biyaha baadkiiyo biyaha waxaan ka wadaa meelaha daaqa ah ee xooluhu daaqana uu ku yaraa biyuhuna way ku yaraayeen taasaa markaa waxay dhalisay in dadkii ay noloshoodii adkaato oo la raadiyo uun baad iyo biyo waaye dadka markaa miyiga degan saynu ognahay waxay u kala qaybsanaayeen qabiilooyin aan shaqo isku lahayn wax xidhiidhi ka dhaxaynin qabiilooyinkaasi may lahayn maamul guud oo u dhexeeyo dowladeed ama hab maamuloo u kala cadaalad qaada muu jirin qabiil waliba wuxuu lahaa maamulkiisa gaarka ah ee isaga u gaarka ah ee hadday noqoto waxay odhan jireen suldaanka iyo garaadka iyo maraaqa iyo ilaa imkaynu isticmaalaa noloshu markay saa tahay qabiil waliba qabiilka uu ka xoog weyn uu ka tirada badan yahay uu ku tacadii jira oo taa waynu ognahay haddii lagaa tiro badan yahay dad ku noqoto gabayadii soomaalida waxaad arkaysaa gabayada calaacalka ah ama cadhada ah cidda had iyo jeer tirinaysaa waa cid jilib kale oo hadda ay isagaana isugu dhow yihiin oo intuu wax ka dilay fara u sheeganayo oo lagu tacadiyayo ama dumar laga qaaday ama geel laga qaaday noloshii sidaa u adkayd wax dowlad guud oo cadaalad qaadana aanay jirin baa waxay kaliftay in cid waliba ay tidhaahdo haddaba isbadbaadi haddaad tiro yartay qabiil adag oo tiro badan qabiil weyn waa inaad ku biirtaad magta la bixisaa noloshii markay saa noqotay waxa yimi in geeli la kala dhaco geela xoog baa loo kala dhici jiray oo soomaalidu umaba haysan geela in la kala leeyahay yani waa la kala leeyahay laakiin dee si dhicitaanku ugu fududaaday waxaa samayn jiray noloshaas markaa waxaa loo baahday cid geelii difaacda waxaa loo baahday cid dumarkii difaacdo dumarka waa la kala qaadaya marka maadaama ay noqotay nolol adagoo difaac iyo weerar u badan noloshaasi inay tahay waayo marka ninku geeljiraha geela kaxeeyo ee uu wuxuu geynayaa meel uu lugaynayo biro dhan ama lugeyo dhan uu lugaynayo cidla ah halkan markuu tago 3 nin 4 nin ama 10 nin baa geela ilaalinaya waa dhowr boqol oo geela ay ilaalinayaan waa inay haystaan difaac haddii la soo weeraro geela laga soo qaado dib u soo dhicin kara ama waa inaan geelooda laguba soo dhicinba marka horeba oo farahooda laga baqaya marka taasi si u suurta gasho waa in dadka loo diyaariyaa dagaal iyo difaac joogto ah taana waxaad ka arki kartaa suugaanteena iyo maamaheena kow halkaa haddaba aynu uga nimaadna haweenkii markaa waxaa la yidhi haweenku mar haddaanay environmentka iyo xaaladda lagu nool yahay labadii ugu muhiimsanaaya ahaa dagaal
iyo difaac haddaan gali karaynin إلى لبلا سمرك أقصر رعية واحد بن آدم خلقوا قيمة يو مركان قيمة هو دي هوسبورد عهد وجو لقوم قيمين هواينكي جراد يمسكح يكرتك عليه وحلقوا قيمة ما تقالنا بكرتها مايا وما دفاعي كرتها مايا قيمها مركا هوسبورد رايس كتشو أنت أسمرك أي تيمي إن فاير بدك هذا كل في مركا يكون وراين تاسمرك إن مركا تيمي هواينك وح يشقدوا دي لقى يقولي جاي يشوفان وبدك كوريان عرورتنا هيا alright intaas marka hataa marka dhacdaba waxa yimi shaqooyinka macaamiilka yaala marka daragto waxa ugu badan ee hawlaha ugu badan 90% waxa qaban jiray haweenka agabka guriga iyaga sameyn jiray dhaanka iyaga dooni jiray adayga guryaha aqalada Soomaaliyeed iyada dhisi jiray yani wad garanaysan hawlaha ay qaban jireen raggu maxay qaban jireen geel la raaco oo lala soo joogo iyo dagaal iyo difaac intaas bay qaban jireen iyo garaha iyo arrimahooda kale qabtaan laakiin hawlaha dumarka u badna hawlahaas iyagoo ay badan yihiin haddana dumarka lama siin jirin oo lama oran jirin hawsha ugu badan baa qabataane waa inaad kaalin bulshada ku yeelataan may kaalinta kaliya lagu qiimeeyo waa dagaal iyo difaac labada mar hadaan ku jirin adigu ma lihid marka waa marka adduunyada marka la eegto citizenship waxa la yiraahdo ama qofka waxa la yiraahdo marka la qiimeeyo lagu leeyahay qofku wadani ma yahay waxyaalaha lagu qiimeeyo ugu waaweyn waxa kamid ah qofku ma yahay qof wadanka u dagaalamaya oo dhimanaya أمير الله يقول يبايو ما يهي مركا يمكن أدونك جوتي يمكن على الشدة أنا مركا نلسيني أدوية كلام مركا نتقني أيها لو دارنا إياه مركا دارنا يسوع ما أودي من يسوع ودك ها كونستيتوشن كودك من الدفاع يسا ها ودك هديل وحياة لو دارنا إياه مركا جريسو واي هواين كم مركا محل إذا حدنا شروط لها بوحين من ستيسن ستيسن كواحد نقطتين سكن كلاس ستيسن وحل إذا هذا كشيء ذاك أو واحد ستيسن بوحد وضنيون بوحمد تهدنا وكلام عليه أوكي maxaa markaa yimid taasi markay timi waxa dhacay go'aamada marka la qaadanayo bulshadu go'aamada ay qaadanayso ee geedka hoostiisa la isugu tago go'aamadaasoo dhanna waxa qaadan jiray ragga go'aamada raggu ay qaadanayaan waa go'aamadii lagu maamulayay bulshada haddaba go'aamada waxa ku jira go'aamadii haweenka ay leeyihiin oo go'aamadii maxaa haweenka sida maamulkoodii ahaa waxba haweenka lagama weydiin jirin rag baa fadhiya rag baa go'aanka soo furinaya haweenkuna maxay markaa samaynayaan wixii raggu ay soo gaareen ayuunba yara furinayaan halkaana maxaa markaa ka bilaabmay halka hadhowban dib ka sharxi doona waa sababaha maanta loogu diiday haweenku inay ka qayb qaataan siyaasadda haddii looga hortaagay dhaqankii miyiga ee geedka marka la fadhiyo aan dumarka loo ogolayn geedkii unba inaga wuxuu noqday imka golayaashii iyo de executive-kii oo ah golayaasha hadday noqoto baarlamanka iyo hadday fulintii noqoto iyo maxkamadihii ayuunba de geedkii imika ah ila markii hore geedkeenu ahaynay maadaama geedka loo diidi jiray geedkii maanta lama fadhiyo laakiin fikirkii iyo caqligii geedka yaalay ayaan la challenge garaynin fikirkii iyo caqligii geedka yaalay baa waxba la iska weydiinin oo la odhanin war odayaashaasi environmentka ay joogay saasay ku ahaayeen inay caqligoodii aynu maanta la nimaadno magaaladii miyay tahay taa la isma weydiin sababaha la isku weydiin waxaa ka mid ah weli maan arkin dhaqankeenna qof dhaliilayo ku odhanaya dhaqankeenu dhaliilahaas iyo ceebahaasu leeyahay waay waa waxyaalaha aan ku leeyahay waa waxyaalaha aanan weli ka guurin taas markaa maxay keentay markii haweenkii bartaa la dhigay raggiina ay go'aamadii iyagu iska leeyihiin xuquuqdoodii ila geedka hadday fadhiisan lahaayeen iyaga xuquuqdooda ka dooni lahaa iyaga haweenku hadli lahaa maadaama xuquuqdii dibadda lagaa dhigana waxba ku lahayn go'aankii yani aanad waxa leeyahay go'aankii waxba ku lahayn go'aamada la gaadhayo shuruucda la soo saarayana marka haddee waxba ku darsan maysid sidaa aawadeed maxaa la sameeyey markaa go'aamadii raggii baa gaadhay raggii baa dumarkii u tashaday waxay yidhaahdeen habdhaqankii markaa taasi ay keentay maxaa ka mid ah waxa ka mid ah waxa la yiraahdo sidii dumarka loola dhaqmi jiray dumarka kaliya waxa qiimahoodii laga dhigay inay wax dhalaan inay carruurtii guriga koriyaan xaafadana fadhiyaan waa mahmahda Soomaaliyeed tiraahdo gabadhi ama guri ha kaaga jirto ama gud haddoo fiirso miyigii bay ka timi mahmahdaasi maanta markaynu magaalada nimay taasi way beenoodo been ma hawa ogtihiin laakiin caqligii miyiga ayaa weli yaallay hadda gomeeraha leeyahay u fiirsada caqligii miyiga yaalla magaalada loo soo wareejiyay way marka maxaa ka mid ah waxa ka mid ah inanta marka tacadiga lagu sameyn jiray in yar baan dul cararaya iyaga wax godobreer bay dhahdaa jiro miyiga ka jiray godobreertaasi maanta inaga dhanba dhex taalo laakiin waxaan ku tusayaa hab fikirkii miyiga yaallay sidoo haya tacadiga sameyn jiray nin baa qof soo dilaya uu soo baxsanayaa reerkoodii buu imanayaa waa laga daba imanayaa magti baa la isweydiisanayaa magtii marka la siiyo reerkii wax laga dilay ayaa reerkii wax laga dilay caradii ka yara bii waayaysaa ninkii wax dilay walaashii oo halkan taagan baa la odhanayaa inanta la ku darsada godob reeb baa la yidhahdaa waa halka Soomaalidu ay ku mahmaahdo meel xinjiri taalo xabnaha yaallo yani xinjirtii dhiig baa ku daatay xabkana waxaa laga wadaa markaa
xabkana markaa waxa laga wadaa inay wax ku dhashaan waay talabaad waxa dhici jiray ninku hadduu gabar kufsado ama dhaawac u geysto halkii ninka la ciqaabi lahaa lama ciqaabayo waayo weliga idiin sheego ninkii baa qiimalooda iyadu citizen maaha buuxa markaa waxaa la odhanayaa haddaad kufsatay ama dhaawacday quruxdeeda waxu dhima qadaad kuu ritaa adaa guursanaya caqligaasi maanta weli waa wax gudub rabi maanta ma lihin laakiin mahmahdaas ah kufsigu maanta ila dhex yaallaa soomaaliyeed waynu aragnay inan baa la kufsanaya diinta islaamku waxay inoo sheegtay ninkaas culimada weydiiya gacan iyo lug baa la gooyaa dabaq baa laga soo dura waa la dilaa lama dilayo waxa lagu leeyahay ninku inanta kufsaday ayaa loo guurinaya bal hadda arrinkaa u fiirsada maanta haddaan anoo waddankii jooga inan la sheekaysto oo i diido oon kufsado xaaskayga noqonaysa mashaki baa taa ku jira kuma jiro waayo marka wax kufsado reerka iyagaan u tagayaa waa layla baxsanaya waxa lagu leeyahay kufsi baa dhacay gabadh weligeed waa la kufsan jiray gabadhii waanu idinka soo diraynaa xaalla waanu bixinaynaa ma wax inta aan ahayn baa lagu xalilaa ilaa maanta marmar baad arkaysaa dee imika markuu ninku wax kufsaduu dilo in loo dilay laakiin inan la kufsaday ninka waa la siiya weli waa caqligii miyiga yaalay kaasina sobkii labaad maaha okay guurka markaad u fiirsato miyiga yaalay inantu halkay iyadu go'aansan lahayd sidii diintu ina fartay ninka iyadu doonayso inay guursato lama samayn jirin miyiga inanta waxaa lagu bedelan jiray geel baa lagu bedelan jiray iyo fardo iyo qori boqol geela iyo faras iyo qori heesaheena maxaa ka buuxa marka ninkii aan hanti fara badan haysan oo dhaqaale fara badan haysan waa loo diidi jiray ilaa berigii dhaweyd ilaa maanta waxaa jira hablaha in la bixin jiray oo loola jiray duca iyo habaar imika way yaraatay sheekadaasi laakiin duca iyo habaar aaba kala dooro diinta meelna kagama jirto inantu hadday ku diido maca waalidka habaarkiisu ma kacayo diiniya xaq uguma laha laakiin waa maxay waa caqligii miyiga yaalay maxaa kale jiray habluhu markaa waxaa dhici jiray marka shuruud lagaga dhigay odaygu ilaa inanta qiimaheediba waa tanoo ninkii lama mid oo maaha qof bini'aadam oo buuxa sidiisa loola dhaqmi maayee oo kaalmihii muhiimkaa ma buuxinaysa dagaalkii iyo difaacii ayaa waxaa la sameeyey markaa inantiiba nin la sheekaysanaysa ninkiiba wuxuu samaynayaa markuu la sheekaystaa la ogaanaya ninku inuu yahay danyar reerkoodoo kale waa loo diidaya maadaama inantu ay taa og tahay wixii la odhan jiray la tegitaanka waydu garanaysaa la tegitaanka waxyaalaha kalifi jiray waxaa ka mid ah nin baa inaan arkaysaa way la sheekaysanaysaa way isfahmayaan ninkii way ka helaysaa waxay og tahay aabbaheed inuu diidayo because ninkani waa danyar xalku muxuu noqonayaa inay baxsato hadda barag inantaa waxa lagu kalifayo markay baxsato aabbaheed uu ka cadhoonaya ninkii si sharaf leh umay raacin way la baxsatay inadii dhibaataa la kulmaysaa reerkood yani waxaas wuxuu ahaa tacadiga lagu haya dhibaatooyinka ka dhalan jiray waxa kaloo tacadiga haweenka ku tusaaya inuu ka dhalan jiray heerin wixii la odhan jiray hablihii heermi jiray gurigay joogtaa rag baa soo doonaya waa loo diidaya odayga hor taagan ilaa 100 geela ama xoolo la siiyo wuu iibinaya inantu waa iib diinteenuna ma ogolata hablihiiba guriga ku weynaanaya dee ama ogaanaya dee aabahood aanu ogolaynba waxaan xoolo ahayn markay guriga ku weynaadaan waa kuwii heermi jiro heeri kara waynu naqaanaa maxaa kale dhici jiray marka gabadha la guursado odayaasheena u fiirsada maanta waaweyn ee jooga hadda dhegeysta marka dhaqanka ka sheekeynaya waxay odhanayaan furitaanku ceeb buu ahaa bay ku leeyihin waa runtood oo waa ceeb buu ahaa mamnuuc buu ahaa furitaanka ilaahay ceeb kamuu dhigine haddii gurigaa la isfahmi waayo ilaahay baa soo dejiyey inkastaanu qurux badnayn aanu fiicnayn laakiin waa xalkii bay diideen odayaashu waxay ku odhanayaan gabadhu waxay odhan jirtay odayga lugta intay qabsato hay furina idil yani dhagadii la dhac because ceeb baa laga dhigay ayaa looga dhigay society inuu furitaanku yihi marka maxaa la wadaa ceebta waxaa looga dhigayaa gabadha la furaa ceebtu raacaysaa maaha ninka gabadha maadaama ay ceebtu raacayso ayaa maxaa la samaynaya ilaa maanta way yaraatay ayaa maxaa la sameeyey markaa inantii inay xejisato gurigii haddii lagu diriyo haddii kalaba mahmahda kale ku jirtee aadka aanu necbay waxaa ka mid ah walaashaa iskuma hubtida seediga haysa seegina oo ah walaashaa tacadigeeda ha dhegaysan seediga un ka fikir eg waa maamaha maca walaalkeed baa la leeyahay haw hirin xaqeeda haw raadin waa yaro guud carraya waqtigii baa soo dhow qiimaha markaa waxaynu garanaynaa markii taasi ay dhacday inanka miyiga marka la joogo raggaa qiimo badnaa waxaad ku garanaysaa ninka keli dhasha ee la dhashay ka soo qad inan baa dhashay 5 hablood buu la dhashay inankaa waxaa la yidhaha madi waxaa looga bixiyey rag lamuu dhalan yacni waa cirsilaawe waa nin cidlo jooga hadday inan la dhalato laakiin 5 nin waa inan ammaanan ninkaa madiga had iyo jeer macaa maanta aynu aaminsannaho magaalooyinka aynu joogno ninku hadduu hablo badan la dhasho markiiba waa loo guriyaa si uu inama u dhalo oo madi baa loo yaqaanaa waay intaa waxaan ku guud maray markaa qiimihii haweenku ku lahaayeen miyiga iyo wixii sababay aynu magaaladii nimaadno magaaladii marka timaado
waxa bedelmay waxyaalo caadooyin ahaayo miyiga yaalay qaar weynu ka soo guuray balse laakiin aqligii iyo garaadkii iyo fikirkii miyiga yaalay weli weynu suganaa maaha magaalooyinka qurbaha dowladii reer galbeedkana weli la joognaa taana waxaa kuu caddaynaya magaalo kastoo Soomaaliya ay degantay Baltag xaafadaha qabiil baa loo kala degan yahay waa sidii miyiga loo kala deganaa xaafad walba qabiil degan yahay intaas uma kutusaysa aqligii inaanu weli inaga guurin ma garanayo waxay ka galay bahal baa iga yara galay inanta inanta magaalada imika marka la joogo ayanu nimid hadduu aqligaas yaalay waxaad eegtaa inantu tacadigu meesha uu kaga bilaabmay ugu weyni waa guriga aabaheed iyo hooyadeed waa gurigii la rabay inanta yar in aqligeeda iyo garaadkeeda iyo waxbarashadeeda iyo hankeeda lagu koriyo ayaa waliba hablaha xanuunka ila dareemayo dee anu waan garanaya gurigii bay ku wada koreen ka soo qaad waa waxaan u kala bixiyay inan sayno la yiraahdo 15 jir iyo walaalkeedo xasano 14 jir oo ka yar waxay doonaan baa noqdaan inantaasi markiiba guriga waxa laga dhaadhicinaya markiiba la tusayaa inay ka duwantay ka hooseyso inanka dariiqooyin baa jira marka loo maro hablaha magaalada jooga in lagu boqnogooyo hankooda iyo garashadooda iyo damiirkooda oo lagu dareensiiyo inay tahay wax qiimaheedu uu ka hooseeyo qiimihii ragga dariiqooyinkaasan galaya dariiqa ugu horeeya inantu markay guriga ku dhalato lagu ababiyaa waxa weeye dariiqa aan u bixiyay adeegtadu waa ma horta waxaan idinku daraya casharadan waxay ku wada jiraan iyadoo aad u faahfaahsan buuggaas ka helaysaa dariiqa koodu adeegtadu waa maxay inantu guriga markay joogto markiiba waxaa la leeyahay inankiina maryihiisaad maydhaysaa qolkiisaad soo nadiifinaysaa cuntadaad u dhigaysaa cuntadaad u karinaysaa yacni gurigaa dhan inankaasi wax mas-uuliyadoo saarani ma jirto habluhu way wada garanayaan marka taa lagu koriyo inantii yarayd aqbasho ayaa inanka wuu soo kacayaa subaxiyo dee anagaa samayn jirnay wuu soo kacayaa sariirtiisiyo isku dhex daadsan buu ka kacayaa iyadaa hagaajinaysa hawshii dhan bay qabanaysaa okay taasi markay dhacdo dariiqa labaad ee loo raaco waa maxay inantii baa isranaysa kacabo marka inantii waa ardayad isagii waa arday casharadii bay soo wada dhigteen inantiyo labadoodii casharkii soo wada dhigto isleeda hoo murogaagii yaraa ka shaqee ayaa hawsha guriga hadday haysato oo hawsha ma geli karo oo ilaa subaxii waa gudbariyo ilaa maqribka ilaa habeenkii la seexanayo inantu ilaa qooshka ay garaacayso ayaa inantaa culays ku saaran yahay inankii kubad buu soo ciyaarayaa wuu baxayaa iyadii buu dilaya u leeyahay shaarkayga maxaad u kaaweydeen weyday maxaad kale igu sameyn weyday dabadu isagu soo wareegayaa wuxuu samaynayaa yani howmaragiisu ka shaqaynaya iyadu waxaasoo tacadiya waxaasoo dhib haysta waa waxa kalifa in had iyo jeer habluhu macaa ay iskuulladu ku adkaadaan waay tacadiga noocaasa markaad ku soo kortay ee aad gurigaa ku korto saaxiibkaa ku koreen jiiraankii oo dhan ku koreen adigu waxaad u arkaysaa wax normal oo caadi ahoo dee bini'aadamku saa inay u nool yihiin haddii walaashaa lagugu yara bedelo maalin keliya oo lagu yidhaa qolka walaashaa hagaaji oo cuntadeeda kari oo maryaheeda kaaweedee oo haddaad samayn weydo dharbaaxay kula dhacaysaa bal intaa maalin kaliya isku day inaad samayso markaasaad arkaysaa walaashaa culayska saaran iyadoo kula siman oo ilaahay subxaanahu watacaala kula sibay meeshaad walaashaa la geliyey waay dariiqa markaa ku xiga lagu sameeyaa inantu markay taa ku jirto hadday israahdo cabo oo hadalo waxaad tidhahdaa culayskan laygu hayo ha layga daayo inanku guriga wixiisa ha qabsado maxaa inanka yar aniga kelmadda lagu isticmaalaa waxa weeye aamus inan baa tahay inanta marka waxaa la leeyahay aamus inan baa tahayna wax kale ma aha qofka bini'aadam karaamaduna waxaynu kaga duwanay mayeeraanka karaamaduna wax kale maaha waa caqliga iyo fikirka waa waxaynu adduunka kaymaha kaga soo baxnay aynu xayawaanka kale inaga xooga weynaa aynu maanta kaga sarrayno ilaahayna aakhire inugula xisaabtamaya xayawaanka kale aan lagula xisaabtamaynin karaamadaas iyo caqligaana waxaynu kusoo gudbinaa waa hadal hadduu qofku aamuso hadli waayo dee ma garanaysid habu fikirkiisa marka hadalkaynu kusoo gudbin jirnay inanta marka la yidhahdo aamus waxaa laga xayuubiyo laga qaaday karaamadu ilaahay siiyo ah habu fikirkii ila fikirka hadal baynu ku gudbinaa hadalkii mar haddii lagaa xidhana fikirkaaga ma gudbinaysid therefore karaamadu ilaahay ku siiyey ee xayawaanka aad kaga duwanayd baa lagaa duusiyey qofka bini'aadamka taa haddii laga qaado waatuu ilaahay inoogu dhaaranayo ilaahay inoogu sheegayo inuu inagula xisaabtamayo dee dadnimadiisii wax allaaliya wax u haray waataan kugu idhi waa waxa keliya kaga duwaya xayawaanka tii marka lagu yidhaha aamusna subxaan allah yani dhibta ay leedahay buugan kaga hadlo dee waxaan diidayaa waqti badan inay naga sii qaadato dariiqa kale ee saddexaad waxa weeye inantii markii la yidhaha adeegto noqo markay istiri hadalna la caburiyey ayaa waxa u raacay iyadoo inantii dawaqsanoo isle xagee wax ka qaldan yihin hadda waxa ku samaynaya waa aabaheed iyo hooyadeedna waa labada qof ee waalidku ugu horreeya carruurtu ay wax ka rumaystaan ayaa maxaa loo raacinayaa maamaaho soomaaliyeed oo la leeyahay waxaanu kugu samaynaynaa waxa loo soo yeelay xigmadtay tala haween
وتاجران قبل يقولي هكذا جت أما قد شر دمر ودبي شيطان كل عنا قلين كسمة قلان ما هذا إمك يسوع صار أنا وامحي بروفيسور ناقود بب إسباء الطبيعية أما وحبره أما وحبها برا ديك سجاس قبل يدور فريسة هبلا رب قلت شرب الويل كاسنا والله كيسان حكمت ما مركها إلى أنتي هذا اللغة دقي واي waxaan ku xigsiinayaa dariiqa afraad oo ah malcaamadaha iyo iskuulada markay tagaan malcaamadii iskuuladii marka la yimaado malcaamadii rag baa dhigaya iskuuladii rag baa dhigaya ragga dhigayaana waa rag lagu soo koriyay dhaqanka Soomaalida noocaasa maca diinta markaad u fiirsato si khaldan baynu u fahanayno u isticmaalaan dhaqankeena baa diintiiba yani aad moodaa inuu ka awood batay in kana buugan ku sharaxay isagana macallimiintaas wax u dhigaysa macallimiintaas wax tusaysa oo maca diin uga dhigayaan inuu Ilaahay yiri waad ka hoosaysan ragga meel la Ilaahay diinta kuma odhan rag dumar kuwa kala hooseeya diintu waa cadaalad diinta islaamku cadaalad bay ku dhisantay cidna ma dulmido way ka markii iskuuladii laga soo baro ayaa haddana waxa u raacaya bulshadii markay soo dhaxgasho waxay arkaysaa dadkii suuqa marayay iyo jiiraankeedii iyo hablihii kale oo la soo tacadiyay oo waxa lagu sameeyo marka dabada la isugu soo wada baxo ummadii waxa wada aaminsan bulshadiina marka waxay u tustaa ficil ahaan ka marka la sameeyo maxaa hadaba la sameeyay inantu inay markay soo garaadsatay soo weynaato ayaa haddana waxa loo sii samaystay dariiq ka sarreeya ka oo tacadiga ay ku sii aqbasho maxaa ka mid ah magacyaa la samaystay raggu samaystay inay yidhaahdaan gabadhu ayaa darajooyin loo kala sameeyey maxaa ka mid ah waxa u sarreeya dumarka qariyadda waxa ku xiga dhabeesha marwada bagagida baalida basarida iyo wixii la mid ah waa darajooyinka si aan u kala horreysiiyey qariyadda ugu sarreysa haddaad u fiirsato haweenka Soomaalida darajooyinka la kala siiyay oo aad tiraahdo inantan maxaa hablaha loo kala sarreysiyay laba dhinac baad ka eegi kartaa gabadha waxa lagu leeyahay gurigeeda wadata ee ninkeeda dhaqaysa ee carruurteeda dhaqanaysa ee sida u wanaagsan bal haddoo u fiirsan markaad eegayso meel kale laga qiimeyn maayo guriga iyo carruurta ma dhaqanaysa si fiican ma u dhaqanaysa ninkeedana ma u tahay gabadhu dhagan nugul waa intaa kalaamadeediiba ilaahay siiyay inantii waxa lagu soo koobay intaas marka maxaa la yidhi dhinaca kale haddaad ka eegto laakiin xaqiiqiyan waxaad arkaysaa tacadiga gabadha aqbashaha ayaa qariyad la yidhaah darashada u sarreysa tahad iyo jeer murante ee wax diida ayaa ka yara hooseysa oo la leeyahay waa bagag iyo waa baali iyo yani waa magacyaha loo yeelayaa ah tacadigii bay diidan tahay ya karbaasha haddaad u fiirsato xaqiiqiyan inaga waxay naga dhaadhacsan in sababta ay u kala sarreeyaan ay tahay wanaag iyo gurigeeda dhaqanayso of course way ku jirtaa laakiin gurigeeda dhaqanayso maxaad uga jeedaa haddaad tiraahdo waxaad uga jeedaa waxa weeye ninka guriga lihi waxa laaliyo wuxuu doonuu samaynayaa xilligu doonu baxayaa xilligu doonu imanayaa lama yaqaan meeshu tago dhaqaalihiisa meeshu marayo iyada wuxuu yidhi jikada ku jecel runtaana dhal barrito markii sideed dhashan intuu dhaqaaqo mid loo kala guursanaya gabadha taa aqbashaaba la yidhahdaa waa qariyad waa gabar sharaf leh oo karaamo leh oo dhaqanka ilaalinaysa oo maxay ilaalinaysaa naftii waa laga jaro tacaddi baa lagu hayaa waa si aan tahadasho ee iswaalwaasho ee waxaan diida yana dhiigga leh waa kuwa hoose ka mid tahay basari iyo bagagi iyo baali iyo lagu sheego haddaad xaqiiqiyan u fiirsato darajooyinkaa markii la sameeyey ayaa hablii waxay ku baratameen inan waliba inay tidhaahdo aan qaato darajadii ugu sarreysay ee qariyadda haddaba eeg darajadaasina waa maxay inay aqbasho waxa laalay iyo wixii tacaddi ah aanu gudbo qaybta kale waxa jira markii halkaas haddaba marayso ee magaaladii baynu hadda joognaa ogow maxay taasi markaa horta markaa waxa aan intaan u gudbin siyaasaddii iyo dumarkii markay intaasi ku dhacday waxaad arkaysaa tacadigu siduu u xad dhaafay hablihii inay aqbaleen tacadigii baynu eegaynaa hablaha Soomaalidu iyagaa isugu badan dhibta uu raggu ku hayo iyo tacadiga iyagu ay isku hayaan markaan anigu eegay waxa dadka qaar yiraahdaan tacadiga ay haweenku isku hayaan baa badan anigu ragga badan baan qabaa laakiin iyaguba ma yara koodu sababtuna waxa weeye maadaama ay wixii aqbareen oo tacadiga ka batay run qaatay maxaa ka mid ah inan baad imka arkaysaa soo kacday oo darajo yani wax baratay oo aqoon yeelato karti yeelato ummadii isla wuxuu qabo markaas waxa lagu oranayaa waa gabadh rag ah ama waa naag rag ah ama waa naag xiniiyale bal hadda ereyada u fiirsada ereyada iyo luqaddu waa meesha laga eego bulshadaasi yani noloshoodu heerkay marayso haddaynu luqadda ka eegno dhinaca haweenka marka lagu leeyahay waa naag rag ah horta af Soomaali ah waa kelmad khaldan naag iyo rag isma raaci karaan rag waa jamac naagna yani laba ereyo israaci kara maaha dhinaca kale xiniye leeday de gabadhu xiniye male laakiin ujeedada laga leeyahay waxa weeye waa gabadh yeelatay darajooyinkii ragga astaamihii ragga baan
maxay kartidii iyo aqoontii iyo fariidnimadii ayay yeelataa lagu leeyahay marka la yidhaha gabadhaas markay raggu u taagi waayeen la celin kari waayeen gabadh rag ah weeye hablihii kale waxa leeyahay idinku lama mid tihidine iska jooga tane astaamo rageed bay leedahay oo idinku ilaahay u abuuray idinku ma lihidine maxaa ka mid ah haweenkii baa maxay isku odhanaya waxa gudaheeda marka usoo noqoto haweenkii waxaad arkaysaa nin baad arkaysaa gabadh ay murmayaan gabadhii baa waxay odhanaysaa bal ninkan eega sidii dumarka u hadlaya ama nin ragaatee sidii ragga u hadla sidii dumarka u hadline inantaay markaad kelmaddaa leedahay waxaad uga jeedaa nin rag iyo dumarku kala sibay u hadlaan marka waxaad leedahay inantu si daciifay u hadashaa nin ragaato si raganele baa u hadashaa haddii markaa ninka uu hoos u soo dhaco hadduu yani waxaad u jeedaa haddii hadalkaagu hoos u soo dhaco oo u hadasho si yaroo daciifa waxaad u hadashay sidii dumarka waa markaad leedahay sidii dumarkaad u hadlaysaa oo dumarku say u hadlaan hablaha weliba isticmaala inanay markaad leedahay sidii dumarkaad u hadlaysaa yani dumar baanu nay si daciifo oo aan naf lahayn baan u hadalaa therefore haddaad sida iyadoo kale u hadasho sidii dumarkaad noqotay adaa iscaayaya ogow adaa iscaayaya markaa taasina maxay keentay waa tacadiga hablaha lagu haya ka farabatay ayay run u qaateen marka iyo ereyada isticmaal nin ragu ilaahay kaa dhigaya sidaa hawdhan waa ereyada isticmaalaan hay halkaa markaynu warayno waxaan kusoo gabagabaynayaa de waan dul carareeyo waan ilaaliyo maalinta hore waqtigu inagu yaraaday maxaa kugu waajib baan soo gaaray intaanan taa u gelin hadda markaad u fiirsato magaalada markaynu degannahay waxaan ka soo sheekeeyey hablihii guriga ilaa magaaladii ilaa shacabkii ilaa bulshadii ilaa iskuuladii iyo jaamacadihii iyo meel walba hablihii tacadiga lagu hayo hablaheena markaad maanta eegto buugaygan de kusoo qatay statisticska laga diyaariyo un-to ay ka qortaad arki doontaan iyo dad badan oo soomaaliya hablaheena markaad maanta eegto shaqooyinka marka laga hadlayo suuqa cidda fadhida ee ugu badani waa iyaga laakiin shaqooyinkii hadday noqoto maamulka dowladda hadday noqoto iskuuladii hadday noqoto meel kasta oo uu ka socdo shaqooyinka waaweyn oo culculus ee bulshada go'aankeeda lagu gaadha way ku yar yihiin wayna ognahay ama dabaddaa bay ka joogaan badal marka la eego percentage-kooda markaad u fiirsato dhinaca shaqooyinkii fursadaha ma laha waxbarashadii habluhu inkastoo ay ku jiraan ay leeyihiin oo iminka ay soo bateen laakiin haddana ogow inantii waxa ka dhaadhacsan guri iyo reer baad ku dambaynaysaa iyo jiko iyo cunto aad kariso oo marna inanta loogama fadhiyo waxbarashada ay baratay inay ku shaqaysay wax ku keento inankaa laga sugayaa taana inaynu bedelaabaa habboon oo hablaheenu ayna barbar istaagaan oo isla ragga iyo inamada loola dhaqmo kow siyaasaddii u kaalay waynaga aragnay maanta habluhu ay laleeyahay kootaha la siiyo yacni ummad marka laleeyahay kootaha la siiyo waxay ku tusaysaa waa ummad wayba kootada hablaha loo siinaya waa ummad lagu tacadiyey oo dulmi loo geystay oo waxba loo ogolayn marka waxa weeye maadaama dulmi ku dhacay kootada dulmi bay ku tusaysaa waay marka yani waxaad arkaysaa hablihii meel walba dabadda ayay ka taagan yihiin hadda waxaa soo kordhaynu aragnay kufsi kayral-caadiya oo xadkii ka baxay anugu dadka waxaan ku idhahdaa kufsigu weligiiba wuu jiray iminka waxa dabadda soo dhigay waa kamaradahan iyo fiidiyoyada la duuba ayuunba dabadda soo dhigaye kufsigu weligiiba wuu dhici jiray waxaanan qabaa soomaalidu kufsigu inuu ku badnaa sababtu ugu badnaa weliba intii magaalooyinkan sheegaya wuxuu ugu badnaa ninku markuu wax kufsado waa la qariyaa horta oo waxa lagu leeyahay waa ceeb maaha waa crime kufsigu waa crime maaha ceeb marka maadaama lagu yidhi waa ceeb waa la qarinayaa maanta haddaad ku nooshahay magaalada Kismaayo oo magaalada Burco uu kufsi ka dhaco saad ku ogaanaysaa maxaanuba fogaanaya inuu fariyo hadduu xamar ka dhaco moogid hadduu xaafadda magaalada kale ka dhaco moogaanaysa waayo inankii wax kufsaday iyo inantii waa la asturayaa reerkii baa isu imanaya odayaashii lacag bay kala qaadanayaan marka la kala qaatana labadii baa la isu guurinaya waxa lagu leeyahay asturaba sheekadii haddii la asturayo sidaynu ku ogaanayna kufsigu inuu igu badan yahay inuu igu yar yahay ta labaad halka aniga waxa iga soo baxay dee kufsigii waaba la fududeeyeyba waaba lagu fududeeyey waxa wadada inanta kufsato waa lagu guurinaya marka mar haddii dhaqanka noocaasi jiro miyaanay micnaheedu ahayn kufsigu inuu fududi wax dhaawaco ku gaaraya ma jiro wax xukunoo lagu ridaya ma jirto waaba lagu abaalgudaya intii lagugu abaalgudaaba ay dhacaysaa tiina imika dilmaaba lasii raaciyo dee wadinka arkay oo dee xadkii bay ka baxday waxa kaloo maanta aad aragteeno xadkii ka baxo weliba berigaa hore miyiga aad muddo inuu ku yaraa hablaheennii haddaad magaalooyinka soomaalida tagto 8 iyo 5 iyo 10 iyagoo dhalay oo dabadii fadhiya oo tamaandhaya suuqa ku iibinaya qof kasta oo wallahi alcadiim damiir la markaad aragto shaah yar bay geel la fadhidaa 8 ama 5 bay haysaa ninkii qabay intuu dhaqaaqay ayuu inan yar oo cusub ayuu buuqiya xaafadii intuu ka tagay ayuu imka qaba hadraawi maansadu ka tiriyo weydinka arkay
ugaasadu meeday heedhe dorraato miyaan la aasin miyaan kafal loo amaahan yani wuxuu hataa uu tusayaa ila bulshadii uu dhex joogaaye dulmigan qayral caadiga ah ee lagu hayo rag siyaasi wada noqoy ma sidiisa kala wadin kaar yani wuxuu arkayaa in raggii uu gabay kaalintii uu lahaan jiray oo haweenkii faraa looga qaaday oo inta wax laga dhagan lala dhaqaaqay waxaasna maxaa keenay haddaad aragto barnaamijyada laga soo duubo dhalinyarta oo su'aalo balma dhaweyta la weydiinayay nin waliba wuxuu arkaa gabadhu inay tahay irrelevant way dhahaysaa halkaasay joogtaa yani wax qiimo ah oo ay leedaho fara badani ma jirto ninkiina dhaqankii wuu ammaanaya la caayi maayo la ciqaabi maayo xukun ma yaallo يعني سبحان الله يعني مركا أنا واحد أقول لها تعدوا أدبوا فربطي تعدوا لو حكى صوت شيء فكر كيمي جاي لي أيان لا تشارج قرينين فكر كيبان نبدلين فكر كيبان خلد كيسي ده بدل صادقين أو واحد كأركيسا حدار إمكان ميلا فربطنا على كجشوا سياسي جينا بهذا في الصوت مركز إسكده واحد كله السوشيال ميديا عرفتهم واحد أركيسا سياسي جينا نول بواحد دفاعي وقبيل كيسي ودتك بوابعي xoolahooda uu qaadanayay ee uu baday caafimaad la'aanta waxbarasho la'aanta shaqo la'aanta dadku ninkaasi baday ayaa wuxuu difaacaya waa in adeerka iyo tolaay eeg waa aqligii miyiga yaalay margeela kala dhacayo aqligii baan bedelmin magaalo mar haddii la yimina aqligii miyigu dama shaqayn karayo waayo jiiraan baa la yahay iskuul baa la wada dhigtaa iskuulka reer hebel mare wadada reer hebel mare yani hablihii miyigii maanta dagaal loogama baahna iyo geel la dhaco iyo xoog iyo waxa looga baahan yahay farsamo iyo aqoon iyo cilmi iyo waxbarasho iyo qof wax soo kordhinaya hablihii iyo inamada taa way ka sameeyeen marka waxaan ku soo gabagabayn lahaa waan ku yara raftay hadalka waayo mawduuca aad u ballaarno mawduuca jecelna uu yahay waxaan ku soo gabagabaynayaa insha Allah in aan oran lahaa dhalinyarto dhan waajib baa ina saaran hablaheena inaynu xaqooda u soo celinno waliba hablo wax kale ma rabaan xaqu ilaahay siiyey ee diinteenu siisay in la siiyo oo ah inaynu simanahay عدي لقى دايو حبلانا وحنا ليه ما تشرو قوم ميل دجال أما ما تشوتو بلاش وحلو السياعة حبلا وحدا دون سنة دوح قبستان هرت اللقطة الصومالية ده إيه تعدي هواي كلا تجالما لقطها بدلة إذا يدا القرية سعودية برنامج شيء عن ضبط دعوة مع كسبي مركا تاسع تكسر جبينا يا وقت جيبا يقدو مركا واحد سمعني إن شاء الله سؤالي بني مكوبنين يدتكم بحي سؤال قبائنا يوديان خذي تولاله كسر دو إن شاء الله وكبحية. أبغى ما تصنت ولا عبد الرحمن من الموضوع أنت كسي دارا بس كتش على سن لسان دقيسي كيسة وقرر حيسن نانية دقيسيها شبه أبغى ما تصنت هاي هذا أنا وحين أقول قلنا قيتي سؤالها فضلا وحي سؤال قوا كعنتها تاجان سيدو كله سؤال شو ده كسر كوان تو لو منيت شو ده هذا حفصة نيمو حفصة سودو ميوتس كقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي ما مقلعة سيفي عن حفصة سودو ولا أوكي وما سنتهين دمانتي وإذن كلمة هذا علنا يا برنامج أنقص من إلى ما عرفتي جوان في سنة لقن كيها وينك الصوماليات أستاذ برضو حبذا وحقيقة وكل واجي دمر الدان هنا وابايد يعني كراسي مركو إيجو waxaa ka dhawaajisay oo aad hadda ani uga helay waxay ka mid tahay in ay waagi horeeto markii la fiiriyo miyiga markii la joogay ama reebaadiyaha ahaa kaalin bulsho waxa la dhahay inaysan markii horeba jirin sababtoo ah laba shay kaliya ah dumarkan wixii dumar hawlahooda haysteen raggana wixii oo rag ah raggaasna yani kaalintooda ugu badan marka laga yimaado geel iyo waxaas dagaal ay ahayd ama dagaal ay ku fikirayeen ama dagaal ay adu wax la xiriira dagaal taasna wax maanta dumarku ay shaqo ku leeyihiin maahan laakiin markii la yimid magaalo saa sheegtay caqligii wali wadanaa anagoo ka gedisan hab nololeedkeeni inaan ka maqanahay siyaasadii doorkii maaragtay oo aabuhu lahaa inuu gabo kulligeed ma wada dhehayno laakiin qaaliban sida maanta waddankeenu u wada badan yahay marka hal su'aalaa qabaa hadda aan ku weydiin lahaa oo waxay tahay dumar ahaan hadda waxaan sheegto dhan waa run way jiraan maxaa talaaho anagana siin leedahay maxaa fariino noo reeb lahayd si uga dhiidinaa ragga ma ku banaan baxnaa maxaan ku nidhahnaa yani sideenu kula talin lahayd waa mahadsantiin idinkana dhammaantiin shukran okay qofka xiga
سؤالها شاشن بينو سو راعسن qofkii su'aal qaba fadlan gacanta ha taago aan okay qofkan video ku jira gacanta taagaya fadlan niyadda iska qaad soo dhawow okay waa mahadsan tahay horta barnaamijkan waxaa loogu talagalay dhalinyarada 30 sano ka hor waxaan ahaa dhalinyaro miyay hadeertaan maasha allah kariima ilmahayga ayaa maantay dhalinyaro ah iyakeen ku mashquulsanahay dhowr waxaadan sheegayaa igan raalliho waa soo gaabinayaa as quick as I can ma garan karo inaan hadda ka hor aad aragtay article aan qoray oo ku saabsanaa maamaha oo maamahayada xaggooda aan wax ka fiirinayo oo dhahaya guri kastaba wuxuu la xiran yahay maamaha saas camal guri kastaba wuxuu la xiran yahay sabab maamahadi hadda waa iga maqan tahay I don't know if you came across macnaha articlekaas taas waa taas as a comment midda kale waxaa tiri dhaqanka ma arkin dhaqanka Soomaalida qof wax ka sheegay ma arkin run ahaantii dhaqanka Soomaalida wax badan dad badan oo ka sheega waa jiraan maybe ma aadan arkin dad oo laga yaabo meesha aad degan tahay markii la soo qaxay oo la imaaday macnaha qurbaha waxaa la arkay dhaqanka Soomaalida inuu u baahan yahay in wax laga toosiyo dadka inta badan meeshaan aan ugu imaanay anigu waxaan joogaa dalka Mareykanka waxay yiraahdaan you can't change your values but you can adjust dhaqankaaga ma bedeli kartid but adjust xoga waa la bedeli karaa xogaa yariis taas waa taas horta kaliya ma tihid dad badan ayaa aaminsan dhaqanka Soomaalida inuu dhibaato weyn u geystay oo dhibaato badan inuu keenay xagga qabyaaladda ahaato sida aad sheegtay hadda forumkii aan ku jirnay oo nalaga soo tilmaamay ayaan hadda gabar maray liiraado ka doodeynay in dhibaatada number 1 Soomaalida ay haystaan dhaqan xumada qabiilka naftigiisu wuxuu ka mid yahay dhaqan xumada taas waa taas midda kale waxaa jirta anoon specifically aan sheegin gabar la yiraahday ama joog ama tag macnaha haddaa tegaysidna waa ku furaya haddaa joogaysidna waa ku qabaya it's your choice sidaa rabtid ka yar horta iskuma hayo dhaqanka Soomaalida inuu yahay dhaqan nadiif ah oo haweenka run ahaantii protect garaya sababtoo ah qurbaha marka gabar Soomaaliyeed u gaftid qabiilkeeda inuu kugu soo duulay walaalaheeda kugu soo duulay dadkeeda kugu soo duulay at same time la iskuma hayo in macnaha markii gabadha la guursado guriga dib weyn ay ku qabto lana abuse gareeyo iskuma hayo taasito marka waxaan ku dhihi lahaa ma dhaqankiya u baahan bedelaad mise gabdhihiya u baahan inay isbedelaan mise nimankiya u baahan inay isbedelaan isbedelka xaguu ka imaan karaa waa ka baxay iga raalli ahaada magacaaga walaala ii raaci magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Barre waxaan joogaa Minneapolis Minnesota waxna waan qorqoraa arrimaha dhaqanka iyo haweenka iyo furitaanka oo ku badan wadankan aad ugu badan macnaha waxa waa interest waan ku ahay more than that waxaan u shaqeeyay waxaan ahay local government qof dawladda u shaqeeya so waxyaabo badan oo ayaa jira macnaha oo la xiriira guryaha siiba guryaha macnaha haweenka particularly markay noqoto guurka xaqiisa marka ma dhaqankii ayaa in la bedelo u baahan ma haweenkii yaa raba inay isbedelaan ma habka hore in loo noqdaa mise nimankii yaa raba inay isbedelaan mise wax kasta waa fiicnaayeeno macnaha aniga 30 sano ka hor markaan kasoo taga meeshaasayto waxaan dhaqanba fikri jirin markaan inta imaadana waxay ugu noqotay culture shock mise dagaalkii ayaa wax dhaqan xumada keenay oo wax bedelay taas waxaa dhihi kartaa waa maya sababtoo maamahayada aan isticmaasho oo dhan iyo maamahayada aniga aan isticmaalo oo hadda markii la iskugu imaado qurbaha waxa lagu leeyahay guri xiran buu wuxuu la xiran yahay dhibtiisa marka guri xiran dhib lama xirnaan karo there must be a solution marka kulley taas waxaa dhihi kartaa qurbaha ma aha maamahayadan say sheegayaan daraawga hore u jiray dhibta gabdhaha lagu hayo hore u jirtay asaas aan dhahayna gabdha waa ila dhasheen xaasna waa leeyahay allahu mustacaan gabdhana waa dhalay
السلام عليكم ما شاء ورحمة الله الله. عليكم السلام ورحمة الله. محمد barre aad baad mahadsantahay ustaad qofka xigaa baan uga sii gudbaynaa fadlan qofkii su-aal qabo gacanta ha taago sidoo kale su-aashiisana kusoo koobo ha soo koobo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد أستاذ عبدي وآل أبو سلام أستاذ. الله يسلمك. waxaan rabaa inaan hal su'aal maasanta abay khadiija waxaan rabaa Ustaad Cabdi Naamid inaan ogaado oo hadal aad kor aan dhageysanay ahaa kufsiga waxaa sababay informatiga iyo social media bulshada waqti xaadirkan ay ku nooshahay oo soo badan wax aad ka dhigay wax simple ka dhigay wax fudud ka dhigay weliba u sii siyaadiyay in dil loogu sii daro in qofka la sii dilo macnaha waxaa jiro mar aad dhahday waxa laga soo dharaandariyay miyiga wax miyiga ka imaado waay oo kufsiga markii hadhow oo dhaco dadkii in qabiil ahaan loo wada fadhiisto kadib wala fudeena si oo isugu daro oo wiilkii gabadha hadii wixii dhacaan problemka tuu dhaco even haddana xalliya in laga fadhiisto la isku daro wixii marka waxay u soo kadoontay magaalada waxa jirto waxa dhahday waxa saameyntaas waxa badiyay waxa oo fududeeyay social media oo la isticmaalayo wax badan oo social media oo sii fudeena wixii ka dhig wax fudud wixii ka dhig wax aad u sii xumaanayo oo waxyaalo qaldan oo lagu sii darayo macnaha dhalinyarada waxyaalo sameynayso ma hata effectigaas migo kaga imaado social media macnaha oo sabab waxaas taas aragna ka ogaad ustaad aad u mahadsantahay ayo walaalo thank you qofka xiga fadlan gacanta ha taago si su'aal qaba fadlan qofkii su'aal qaba gacanta ha taago okay cabdiraxmaan waxaan sameynaynaa saddexdan hore baan iska sii jawaabahooda iska sii gudagelaynaa intay dadka kale ay wixii su'aalaha lasoo dhiibanayo haye walaal insha allah waxaan ku bismillahi raxmaan raxiim dhammaantood way wada mahadsan yihiin dadkii su-aalahay soo weydiiyey waxaan ku horeynayaa su-aashii xabsa xabsi waxay weydiisay maxaa tala aad siin lahayd haweenka bay tiri ma ragga ayaanu ku mudaharaadnaa xamsa walaalo kaftan baheed kole runtii maya anu kole waxaan qabaa waxaanu raadinaynaa waa xal baynu raadinaynaa bulsho soomaaliyeed baynu nahay dad walaalaa baynu nahay dad wadankoodii walaala baynu nahay markaan anugu barnaamijyadan ka hadlaayo marna ujeedadeedu ma aha in rag iyo dumarkaan iska hor keeno xaasha waayo haddii dawala rag iyo dumarkii ay iska hor yimaadaan dee rabshadu maan hadda dhaliyo ogow marka waxaa la qaatay xaaladdu sidee haddaad rabshad abuurayso inaad rabshad abuurno sidii hore inaad isaga daysaa la qaatay marka anigu marna ku talin maayo in habluhu ragga la coloobaan in habluha mudaharaad iyo dhibaatooyin sameeyaan ma aha waxaan doonayaa keliya in iyadoo la walaala yahay oo gacanta la ishaysto aynu ka wada hadalno sidii imika uu maxamed barre sheegayo kale aynu ka wada hadalno dhibtu halkay ka imanaysa anigu markaan u fiirsado nin baan ahay waana qadhaliyarta soomaalidu dee asxaab badan baan leeyahay markaad u fiirsato ragga soomaalidu ma aha rag xun xaqiiqiyan markaad eegto deep down markaad u eegto waddankana waan tagaa waa dad iska calool furan oo iska calool xaadhan oo aan soomaali oo dhan markaad aragto laakiin walaal dhibtii waxay ka dhacday anigu meeshan weeraraya waxa weeye waa dhaqankii soomaalida dhibtu waxay ka dhacday dhaqankii laynagu soo koriyey ee noocan ahaa ee qofkii walaal waxaan laga soo dhaadhiciyey anaa saa dee aaminsanaan jiray marka qofkii waxaa laga dhaadhiciyey dee qofkii isaga laftiisaba victim ay ogow dhaqankiibuu victim qofkii u yihi marka qofkii in lagala hadlo oo laga doodo oo ladhaa waa dhibaatooyinkan aynu eegnay dhaqankeenu meelaha uu ka khaldan yahay aynu ka saxno meelaha wanaagsanna aynu haysanno doodaha in la furo habluhuna markaa maxay sameeyaan idinkoo dagaalamin idinkoo raggii la coloobin raggu waa aan ka hadlayaa waa walaalka iyo aabbaha
taasuu ka fikir idigoo colaad iyo dhibcaanay dhicin in hablu dood keenaan ay yidhaahdaan weliba iyadoo hadalka la dabcinayo taasi miyaanay anigu su'aalaha ragga weydiiya waxa weeye diinta ilaahay ma ka soo horjeedaa waa haa mar haddaad tiri diinta ilaahay way ka soo horjeedaa de qofkii soomaaliga ahaa wixii xidhayay ila dhaqanka la dagaalamaysa dhaqankii ma weydiin kartid halkaasuu ka weydii taas miyay diinta oo gashay may dee jooji marka habla waxaan odhan lahaa urura samaysta urura imika way jiraan fatxiye absiye ururkeeda ku biira idinkoo dagaal wadin waar xaqa iyagii baynu ka wada hadlaynaa ragow waxaa noo ogolaada dhibaatooyinka ragga u sheegta wataa dhibaato inamo badan baa la shaqeeyo imika soomaaliyadoo u diyaara markaan waxaan leeyahay dagaal iyo dhib iyo rabsho haddaynu abuurro intaynu haysanay horunbaa wala naga sii baaba'aysa marka idinkoon dagaalamin idinkoon cadhoonin inanka soomaaliyeed wuxuu awoogeen sameeyey dee maanta aniga in laygu ciqaaba ama maxamed lagu ciqaaba ama axmed lagu ciqaabaa diintaan kuu ogoleen caqligaan kuu ogoleen waa wax khaldan dood iyo wada hadal qoraallo qora aynu ka wada doodno taasaan leeyahay oo hafurba discussionkaas insha allah aynu wax saxno idiguna hablow wax saxa wax wanaajiya hablaha jiilka dambena xaqoodii u dhiga laakiin colaad yaanay marna ayna soo dhex gelin insha allah ilahayna inoma keeno waxaan u gudbayaa su-aasha labaadee weydiiye maxamed barre maxamed wuu ku mahadsan yahay maxamed horta waxaan leeyahay maxamedow isku magaalanu deganno amba minneapolis baan deganahay marka horta walaal barasho wanaagsan insha allah maxamed wuxuu soo weydiiyey ma dhaqanka ayaa u baahan buu in la bedelo mise ragga mise haweenka waxaa jirta anigu sidaan qabo waxaan qabaa ragga iyo dumarka midna anigu eedda ma saaro oo rag dadka qaar bay hablaha khaldan raggaa khaldan anigu waxaan idhahdaa markaad u fiirsato dee qurbaan ka hadli maayo ilaa wadankii ilaa qurbaan isku jimcinaya habo fikirkii miyiga yaalay environmentkii iyo degaankii miyigii halkiisa iyaga uu ugu shaqaynayo weliba dee khaladaad badan isagu laftiisu hal ahaadee kiibaa waxaa lala yimi degaan magaalo la yidhaahdo oo aanu ka shaqaynayn nolosheeni baa ka duwan qaab nololeedkeed baa ka duwan kiibaa waxaa la damay caqligii miyiga yaalay in la keeno oo la yidhahdo ninkii miyiga joogay siduu fikiraya aanu u fikir markaan waxaan qabaa haddii dhaqanka iyo habu fikirkaa meesha laga saaro oo la dhaliilo oo kaa laga nadiifiyo hablihii iyo inamadii inaanay wax dhibaato ah u imanaynin inankina wuxuu aaminsan yahay bal iminka maxamed oo walaal markaad eegto ninka soomaaliyeed haddaynu xaqiiqiyan u eegno ninka soomaaliyeed nin iyo gabadhi markay kaa soo horbaxaan anigu ilaa anaa isgaranaye ninka waxaan u arki jiray marka aan qof aan la hadli karo la doodi karo wax isweydaarsan karano gar wada geli karano yani de qof ila mid ah inanta markiiba maskaxdeeda waxa ku jirtaa waa mid ismisgaranaya automatically waxaan u arkayaa qof iska jilicsanoo garaad badan lahayno emotional ahoo waxba aan la weydiinino yani waa fikir noocaasa oo aynu ognahay inuu iskaga ken jira dhaqankeeni bayna baray marka yani waxaan leeyahay rag iyo dumarka dhibaatadii maaha dhibaatada rag iyo dumarka dhex taalla waxa ka aabba'a dhaqankeenii soomaaliyeed oo aynu arkayno sidii maxamed uu sheegay dhaqanka soomaaliyeed ee maanta maxamed oo walaale waad ogta minnesota aynu degannahay waxaynu nahay dadka ugu faraha badan maraykanka hal community ma lihin dhalinyarteennii jeelashii bay ku wada xidhan tahay wallaahi waa naxaa inta dhalinyaro ah ee jeelka ku xidhan kuwa suuqa taagan ee gaangiska noqday yacni guryaheennii oo burburay oo yani la wada noqday dad wada dumay sidaa uu maxamed sheegayo weliba isagaa la shaqeeye haddaad maxamed barnaamij u samaysaa dhibaatooyinka ka taagan hablaha haysta iyo carruurtaas iyo dadka yani maba dhegaysan karaysana qalbi xanuunkooda waxaa maxaa sababay oday bartan jooga oo guri dowladeed ku jiro 80 jira oo waddankii soo baabiiyey oo intuu isagu waddankii soo baabiyuu soo dumiyey halkan markuu yimi isaga ceyr qaadanaya waxba u qarin maayo nimanka aanan u nixin bay walaal nimankaasi ka mid yihiin dowlad yar buu u doontaa SSI wax la yidhaahdo iyo ceyr yar isagoo maanta 80 jira sababtuna wax kale kumay kalifin baahi may keenin dhibaata may keenin waddankeena waad ogtihiin haddaynu wax ka qabsano siduu noqon lahaa waa odagiina kala qaybiyey eena soo dumiyey ee aniga iyo maxamed bal hadda u fiirso aniga iyo maxamed iyo khadiija ayuuna kala gooyey ويقول أحمدنا وارهر هبل أنا رهر هبل باطي ينا وارهر هبل هيسو تجينا أنت بركة نصبينا دوا كهاد كنا قدرجي وأنا قاعد بعطي وأكو حبله هذا كسان قربين ما تسدي كويهين مركا أنا وحلاي دقن كان نوع عاسي قبيلة دا كم قبنو كريا حبله لو حاسوك هيا سدا وينو كلا قوقبي رجي حبله لو كلا قوقبي قومي لنا لو ولا إن رد جنب لقوا يقول كني وحلال سبحانك يا عديد يعني وامحي anigu dagaal waxaan kula jiraa aanu bareeray dhaqanka Soomaalida meelihiisa khaldan meelihiisa saxan waa saxiir oo meelaha saxan oo fiican buu leeyahay cajaayib leh meelaha khaldan ee cadaaladda ka soo horjeeda ee aqliga suuban ka soo horjeeda ee diinta Ilaahay ka soo horjeeda meelahaas aynu u baahnayno iska nadiifino
marka maxamed waxa la maxamed walaal waa run dhaqanka ayaa u baahan in la bedelo buug dhan baan ka qoray oo la yiraahdo dhaliisha dhaqanka Soomaalida ugu yaraan 8 cutub 340 bug weeye oo aan ku sheegayo dhaqanka Soomaalida burburkiisa iyo meeluhu ka khaldan yahay oo dhan ee u baahan laga saxo waxaan ku yara noqonayaa maxamed marka aan lahaa maan maqal cid dhaqanka Soomaalida dhaliilaysa waa run oo waxa jira sida aad sheegtay meel aan aragay way jiraan baa laga yaabaa oo dawlad wax kasta wada arki karaysid laakiin intii aan arkayo waxaad arkaysaa dadkeena waaweyn marka meel la isugu yimaado ammaanta dhaqankeena la siinayo waa dhaqanka ugu cajaa'ibsan su'aalaha markaa weydiiyay hadduu dhaqan wanaagsan yahay muxuu dhalay Mareykan baan joogaayo European-ku dhaqankoodu wuxuu dhalay maanta waynu aragnaa Chinese-ku wuxuu dhalay maanta waynu aragnaa waxaan is weydiiyey waa dhaqankeena muxuu dhalay maanta haddaad aragto China Ingiriis waa la gumaysan jiray innagana waa la gumaysan jiray maanta China cid gumaysan karto u tagi kartaa dawa qof suicide ah oo wadan doonaya inuu baaboo nuclear bay maanta haystaan cidda ay bartay way gubayaan maanta inaga haddii maanta gumaysigu soo noqdo muxuu samaynayaa dadka gumaysi kale oo Ethiopia haddii nagu soo dhaqaday qabsanaysa iyo Kenya yani halka waxa ina dhigay ka inoogu wacayna wax kale maaha waa dhaqanka Soomaalida ee ila kala qoqobay ee 50% of the society hablaheeniya ku yiri aqli ma leeyihiin oo garaad ma leeyihiin guryaha iyo jikada ku ekaada Mareykankiina muxuu yiri kontonkoodii hablood ee Maxamed Wiila digay weydiiya hablahoodu siday u shaqeeyaan iyo siday u waan ku yara dheeraanaya baashanad baan ku hay wala laga yara raadiya xaalad waan ku yara dheeraaday halkaasi marka waxaan leeyahay oo maalin dhawita waxaan daawanayay Iraq markii la weerarayay ayaa inan baa waxay fadhiday inantu waxa loo koobiyo la timsa labiyaad shir mise asaqfala 3 bay ahayd gobol kamid ah Mareykan bay fadhidaa waxa la weerarayaa Iraq meel kamid ah baa niman argagixisay ay ku sheegayeen bay doonayaan weeraraan way oo waa nimankii walaay ISIS iyo dadka baabiinay inanta yar gantaal bay hagaysaa gantaalkii bay hagtay way waday meesh bay ku baabiisay intay soo jeesatay kafeega ka batay ayaa lagu yiri waad la heshay sacabka loo tumay inta fikre baan idhi inanta gantaalka hagaysay intay intaasoo badoo dul marisay Iraq meesha aan cid ugu tagin iyada habla kaliya inama kala la wada hadlaya ee barta lagu dhuftay ayaa inanteedina xaqii ku jirta isagu inantoodii wuxuu ku yiri waad awoodaa waad samayn kartaa maamulay hayaan jaamacadahay wax noogu dhigayeen meel aanay bulshada kaga jirin ma jirto marka walaal bulsho boqolkiiba boqol la siiyay kartidii iyo awoodii waa shaqayn kartaa iyo bulsho lagu yiri 11 boqolkiiba 50 baa naafa la yiri oo lagu yiri hablo ma fikiri kartaan ee laba bulsho iska hor iman karta ma tahay waynu ognahay dowladdaas waa maya waxaan u gudbayaa su'aashii Maxamed ugu dambeysay kufsiga buu yiri waxa fududeeyay social media yani oo inoo soo gudbiya mise waxa fududeeyay dhaqanka social media marka ka hadlayay Axmed walaal waxaan u jeeday kufsigu uu dhacaa kufsigu uu dhici jiray laakiin hadda social media inagun maaha adduunkii oo dhan wuxuu fududeeyay dhacdooyin dhici jiray oo aan la ogeyn oo meediyaha ama TV-yada ama jaraa'idadu aanay ogaan jirin ayaa imika access waxa uu yeeshay shicibkii caadiga ahaa tusaale ahaan dadka madow imika Mareykanka jooga waxa lagu baraarugo aad loo arkaa dad madow oo boolisku ku xadgudbayo si xulu dilaayo dadka haddaad YouTube-ka gasho fiirsato waxaad arkaysaa cidda soo duubaysa ma aha meediyihii waaweyn ama joogaan waa qof shiciba oo cell phone-kiisa yaraasta ayaa duubaya markuu duubana wuxuu soo galayaa social media tiiba markaa carqalad ku noqotay booliskii waana xakameynaysaa markaa boolisku waxay ku khasbanaanayaan cid baa ku duubaysa islaali wax fiican buu noqday dhinaca social media inaga dhinaceena markaad eegto kufsigii dhici jiray maanta anigoo Minneapolis jooga kufsi hadduu ka dhaco Kismaayo iyo Xamar oo social media aanu jirin ma ogaanayo TV-gina ma soo deynayo because TV-gu lacag ku qaadan maayo dad kabale ama waana ogeynba laakiin inaan yaroo kamerasta markuu duubo ama uu ku soo duubo telefoonkiisii way fududaanaysaa anoo Facebook lana waa layla share garaynayaa Kismaayo ka soo gelinaya Hargeysa ka soo gelinaya Djibouti ka soo gelinaya Jigjiga ka soo gelinaya minadkan fadhiyaan arkaya Jigjiga wixii ka dhacay marka media iyagu eed kuma laha kufsiga iyaga yaan la eeday social media wuxuu fududeeyay inuu soo gudbiyo kufsiyadii dhacay markii hore laga qarsoonaa laakiin kufsiga waxa fududeeyay ee maanta sidaa ka dhigay waa dhaqanka Soomaalida ee oranaya ninka wax kufsada inta ha loo guriyo ha lagu asto qodobkaas ayaan la dagaalamayaan leeyahay ninka ayaan la oran hal la ciqaabo hal la xidho adduunka kuma aynu arag dunida horuu martay maanta aynu arkayna loo soo yaacayo Mareykanka aanu joogno ninka wax kufsada ee Maxamed uu garanaya waxa ku dhacaya noloshiisa way u dhameeya inagana ninkii wax kufsada marka inta wala loo guuriyo ee la yiraahdo guurso taasi meel guurkii marka dhaqankii meel ahay waxa fududeynaya kufsigu marka waa meesha la aynu bedelo insha Allah hadii ilahay yiraahdo
aad baad umahadsantahay cabdi cabdiraxmaan waxa u egtahay cid su-aal qabtaa may hadhin aan aniga ahayn marka aniga doonaya ku weydiiyo su-aashayda cabdiraxmaan oo badanaaba waxaynu aragnaa tusaale ahaan waalidkii wuxuu ka kooban yahay laba qof waa hooyadii iyo aabihii marka mar walba qofka saameynta kule waxa weeyaan saameynta weyn yeelanaya waa waxa weeyaan hooyadii marka hooyada maadaama ilmihii barbaarinayso ay wiilkii iyo gabadhii kala duwanaanshaha farqiga intaa leeg ay ku barbaarinayso ma isdhihi karnaa psychologically ahaan yacni in ay dumarku dhammaantood ay aqbalaan quursiga ama tacadiga intaa leeg yacni waa mid nafsiyan u saameeyey oo keenay isdhiibidda intaa leeg ma is odhan karnaa waa xanuun nafsi ah baa keenaya mise waxaan odhan karnaa waa wax kale ayo walaal khadiija aad baad u mahadsantay walaal way jirtaa waxaa jira nin psychologist baa beri wuxuu yidhi wuxuu ka hadlayay human development ayuu ka hadlay wuxuu yidhi waxaad ii keentaan carruur yar yar oo dhowr ah carruurtaa markay ii keentaan carruurtu wuxuu yidhi ha ka reer qaniya ama faqiira ama dad wax bartay oo dad aqoon waxay doonaan ahaadaan meesha doontaan carruurta ka keena adduunka wuxuu yidhi waxaan idin tusayaa carruurtaas ayaa idin odhanayaa kaasi dhakhtar baan ka dhigayaa kana waxaan ka dhigayaa siyaasi kana waxaan ka dhigayaa nin tuga kana nin dilaa ah ayaan ka dhigaya wuxuu ka waday carruurtaas anigu dariiqan u jeexo ayuu noqonayaa sidaa aan u koriyaa waxaan ka dhigayaa nin dilaaya oo naxariis aan lahayn oo cid aan u nixin midna waxaan ka dhigayaa dhakhtar naxariis leh oo dabacsan midna yani markaa wuxuu ka wadaa in uu ku tusayaa in carruurta habka loo soo koriyo bulshada ama guriga ama meesha lagu soo koriyo bay noqdaan carruurtaasina markaa psychologically markaad u fiirsato waxaa la aaminsan waxay yidhahdaan ilmaha yari waa xaashi cad xaashidaa cad waxaad ku qorta uun buu leeyahay oo macaadiinteenna waata inoo sheegta ilmaha yar carruurta yar muslimiin bay ku dhashaan laakiin gurigu ku koro ayuunbu diintiisa hadhowta la baraya marka maxaan ka wadaa hooyadaa waa run guriga hooyadaa maamulka gacanta ku carruurta dee xiriirkoodu aad u badan yahay hooyada iyo carruurtu markaad aabbaha u eegto hooyadu badan yahay hooyadiina waxa lagu soo koriyay bulshada aynu ka soo sheekaynay ee u aaminsanba inay gurigii bay joogtay carruurta waxaynu ka soo sheekano dhan bay soo ahayd waxaa la tusay ragga inay ka hooseyso waxaa la tusay ragga inay ka caqli believe me dumarka weliba waaweyn qaar badan boqolkiiba 8 dee nambarka waa iska qiyaasay waxay aaminsan yihiin ragga inay ka caqli hooseeyaan hooyaan la kulmay anigu magaaladan aan joogo maalin hooyadii baan wada sheekaysanay waxaan ku dhaho imaado aaminsantahay in ragga aad ka caqli hooseysa oo haddaa waxay tiri ragga ma isku caqli baan nahay anagu wallahi alcadiim saasay igu tiri anaga iyo ninku bay tiri dee isku garad iyo isku caqli toona ma lehin oo kineebaa hooseeya dee dumarkaa ka hooseeya bay tiri hadda u fiirso maadaama markaa ay aaminsantahay baa raggii adaa ka caqli hooseeya dee markaa raggu waxay waad arkaysaa gabadhaasi halkay taagnaanayso ilmaheeda see u korinaysaa markaa inankii iyo inantiina iyadu waxaana la aaminsiiyey ee runta u qaadatay aamintay islaantaasi daacad bay ka ahayd ayuunbay ku korisay marka waa halkaad sheegtay yes psychologically markaad u fiirsato waxaan odhan karaa waaba psychological abuse waayo wuxuu u noqonayaa walaalo qofkii ilaahay karaamadu siiyey ee la yidhi waad ka simantiin rag iyo dumarba ee ilaahay markuu yidhi bini aadamka waanu karaamaynay ilaahay mu odhan raggaanu karaamayna bini aadamkao dhan buu ku yidhi bini aadamka karaamaduna waa caqliga iyo garashadii labadiiba markii laga simay ee ayaynu nagu ka karbaashaynu ka diiday oo aynu ka dhaadhicnay fikrad khaldan marka waa run hooyadu raad bay ku yeelanaysaa hooyadu inanta iyadaa sidaa u korinayso tusaysa ninka inay ka hooseyso inankuna inuu ka sarreeyo hooyooyinkaa raadka weyn ku yeesha aabbuhu had iyo jeer dee guriga markuu shaqo ku maqayo markuu joogo mayo koritaanka hooyaale marka maxaa loo baahan yahay hooyooyinkaa hore challenge-kii dhibtu waxay ka taagantahay qaar badan baanad ka dhaadhicinayn oo aanad aqbalsiinaynin inay been tahay oo aanay ragga ka caqli hooseyn macaata ku aqbashaa iyadoo waaye ku tiri baad arkaysaa iyadoo ficilkii haddana markiiba ku dhaqaaqayso wixii aad ka waaninaysa samaynayso waayo waa waxay ku korto dhinac kala garan mayso hadda markaa maxaa loo baahan yahay haddii la badiyo doodaha noocana iyo barnaamijyada noocana oo suugaan laga sameeyo oo laga sameeyo clips oo laga sameeyo filmo yar riwaayadaha la matalo oo kale oo serious laga matalo aan qosol iyo ahayn haddii dhinac kasta bulshada laga soo gulo buugaag laga qoro oo tiifiyada laga soo daayo yani wacyigelin fiican bay noqonaysaa
haween badan baa wax la tusi karaa caddaana inaanay wax ka jirin habliya inama inta la soo hor fadhiisiyo ayaa dood la gelin karaa waliba anigu aan jeclay waddanka marka tagayna qabto ragga ugu daran ee waxaan aaminsan in la soo hor fadhiisiyo inaan su'aalo weydiiyo lala doodo la yidhaahdo xaggaa ka keentay fikradda diinta ka soo saar bal cilmiga ka soo saar bal caqliga suuban bal meel yani in la challenge garayo tusay khaldayi laakiin guusha ugu weyn walaal waxay ku jirtaa hablaha dhalinyarta maanta khadiijay ee adigoo kala ah hablaha dhalinyarta ah ee wax fahansan ee wax bartay ee walaalo yani ka gubanaya khaladka arkaya ayaa maxaa la idinka baahan yihiin hablihii kale ha ku eegina dhibta hablihii idinla midka ahaa la sheekaysta la hadla iminka may rumaysanaysaa hablaha ila soo xidhiidha ii soo qoro inaba maalinta sheeke ii soo qoraysay gabadhay meelka wada shaqaynaya ereya ay ku jiriyo aad u gubay ayay aanu ka sheekaysan inaan tusaayay inay yihiin haweenkii hore dhaawac ku dhacay psychologically la abuse gareeyay inay tahay gabadhaasi ka weyni ha dhagaysan mana dhagaysan bay tiri inantii markaa waxaan idin sheegayaa haddaa idinku isurursataan oo idan waxaan ka daalin oo waxaana walaal waxa lagu bedelaa meelo badan baa dadka laga soo galaa social media baa weliba maanta haysataa soo duuba barnaamijyada wada af soomaaliga inta dib ugu noqotaan ereyadii ragga ee la qarin jiray ee lagu asturi jirayna soo celiya hablaha ereyada lagu maagay positive-ka negative-ka laga dhigay positive-ka dhig imika tusaale maalinta waxaan ka hadlayay ninka waxaan idhi markay gabadha kala tagaan gabadha carbal baa la yidhaha soo maaha ama garoob ninka maxaa la yidhahdaa baan idhi barnaamijkaasoo hargeysa dadka lagu weydiinaya dhalinyartu way garan weyda ninka waxaa la yidhahdaa karinle magacii karinle waa la qariyey waxaa loo qariyey si aan bulshadu u dareemin waxaana loo qarinaya wax kale maaha ninku hadduu imika gabar guursaduu soo furo ninka dhalinyarada buu la mid yahay wax ceebi ma saara yani kama qiimo hooseeyo ninkii dhalinyarta ahaa laakiin inanta haddii laba guursado la furo qiimaheeda bay kuleeyahay hoos buu u dhacaya bal hadda dulmiga walaal intaa lagu fiirso inan baa wax guursatay ubadba may dhalin ninkii bay kala tageen ninkii ay kala tageenna waa nin caadi ahoo sidii ninkii dhalinyarada ha lamid a inantiina mar hadduu meherba kusoo dhacay guri gasho hadda carruur may dhalin ayaa lagu leeyahay waa garoobo oday 60 jiraaba kuu imanaya kusoo hor fadhiisanaya markaasuu koranayaa adigu imika carmal baa to ila inan ma tihide yani qiimahaagii baa dhacay buu ku leeyahay waxyaalaha la doonayo inaad la dagaalantaan ee khatarta ah waa tusaale markaa u soo qaatay inaad tustaan inantu amaha ninkii inantaasi inay simay magacii karin la soo celiyay yani tusaale karinlaha isticmaalkiisii soo celiyo isagana tusa qiimihiisu inuu saayo hablihii u sheeg meelo badan yani ma aha dagaal ugama jeedo laakiin waxaa leeyahay walaalo cadaaladii ha la soo celiyo si fiican cadaaladii ha loo soo celiyo waxaana kaga baxaya idinkay maanta mas-uuliyaddii idin saarantay annagayna saarantay keligin ma tihidin anay isaarantay rag iyo dumarba wayna saarantay hablihii walaalaheen in xuquuqdii loo soo celiyo inala mid noqdaan inala dagaal galaan waxay nala qabtaan garabkeena soo istaagaan waynu u baahanay hablaheennii waa 100% markaa walaalo taasaan ku odhan lahaa oo anugu saas ku maxamed barraa soo galaan maanay gacantiisa wada taagay walaal waan ka baxay u baahsantay okay maxamed soo dhawow fadlan miyada iska qaad mar labaad wadooniya malaa inuu wax ku weydiiyo waa ma bixin macnaha ma bixin waa dhegeysanaya intaasayto keliya waxaan dhihi lahaa ereygaasayto oo aad tiri nimanka ayaa la yidhaahdaa magac kale la mid ayaa jira marka magac kale ma la heli karaa magaca karin laa sheegaysaa ereygaa meel kale galay macnaha waxa waaye kana kule adaa iga badis laakiin inta yar aan ka aqaano ereyga meel kale u tagay marka erey kale usoo raadiyaan dhihi lahaa brother meelo kale u yeeshay miyaa markii af soomaaliga la eegay oo waa waxaa dhici karaysa maxamed in deegaanadu ay kala duwan yihiin hadda sidaa u sheegayaan anaga u naqaanaa deegaankayga marka la eegayo marka waxaa dhici karaysa in ay kala duwan yihiin dadku runtaa waa horta meeshaan dad badan iskugu imaaday dhaqanka waa lagu kala duwan yahay naftigayga waxaan ku dhashay xamar waxaan kusoo kara kismaayo inta isku jirta fiiri aad iyo aad markaysaa inta isku jirto marka dadka hadda isbarteen markii lasoo qaxay ayaa dadka qaarkood isbarteen run ahaantii marka keliya waxaan ku dari lahaa ereyga macno kale ila yeeshay dad kale inuu la yeesho waa laga yaabaa marka kolley maadaama qoraa tahay dhaqanka expert ku tahay waa inaan helna erey kale oo dhib aan keenin politically correct erey ah waa ifahmaysaa u malaynaya si fiican waad mahadsantay walaal maalin dhaweyta waxaan daawanayay niman abwaana ah oo Yuusuf Shaacir ayaa ka sheekeynayay in la yidhahdo abwaana marka wuxuu lahaa buug qoraal bay islahaayeen qoraalkiiba markaa wuxuu yidhi magac bixin baan nuu samaynay magac bixintii markaan nuu samaynay
ayaa hadda waxay joogaan marka Hargeysa Boorama nin reer Boorama la joogay baa wuxuu yiri kelmadda aad tidhaahdeen anagu micno kala noo naqaana hadda Boorama iyo Hargeysa inta isu jira wada aragtaa oo maxaa u taqaanaa marka soo anaguna micnaha masuul waaya aynu bedelay kelmad kala soo qaado masuul tiila qaatay buu yiri marka waa saxan tahay kelmad dagaal looga yaqaano micno ayaa markii dagaal kala tagta laga yaabaa macna aan qurux badnayn macaa oo khatar ah oo aan macal in la yiraahdo aan qurux badan inuu noqdo marka way fiicantay waa run anigu dagaankayaga sida ay sheegtay Khadiijin baa laga yiraahdaa karin leh waxa ka sii sareeya karin luhuna waa ninka marka gabadha uu furo hadduu gabadh labaad ku furo ama gabadh saddexaad uu noqdo nin furitaankiisu badan yahay waxa la yiraahdaa xira bilaal qof baa su'aal raba inuu weydiiyo cawil fadlan soo dhawow miyada iska qaad marka qofkaas aynu kusoo xiraynaa hayo walaalo soo dhawow cawil miyada iska qaad fadlan السلام عليكم دمان جست قالك وجرتا يو داديا برنامجك مرتبط فيها نوع دادهيني عبد داود استان جعلهاي يا خديجة جعليني سلاماتي بوين سلامة يا مركو كوبات مركو اللبات موضوع عاد مهيبة أرتي انت أنا موضوع عيقلين sida anigu Khadiija iyo Cabdi baan isku deegaan baan maaleynaa isku si baan u dhaqaanay kelmadda karin leh marka hees baa ahayd baan maaleynaa markii gabadhii carmalka ay la hadlayay oo lagu lahaa mid sidaada karin la ka deedayo magaalada Maxamed Yusuf marka ana karin la saan u aqaana laakiin waxa moodaa kelmaddaasi inaan aad ba loo isticmaalin oo ninku waa nin uu in la magaraysa oo ka xog badatay ninnimadiisa iyo waxaas ee bulshada lagu dhaxfaafiyay inta marka laga yimaado waxa rabay faalo yar oo kooban inaan ku darsado dabeedna su'aal yar aan ku xigseedo faalada wadaaba waqtigu yara dheeriya xilli dambe aan soo galay mawduuca hadalkiisa dhamaan oo dhaafay oo topic-yo wax badan iga dhaafeen inta ka soo gaaray waxa jirta marka anigu eegay culture-ka Soomaaliga dhaqanka Soomaaliga sidoo haweenka oo yaani ama u liidayo ama u la bahalkin horta marka Soomaaliya la eego dhaqankeeda iyo haweenka si isku yihiin bulshooyinka kale marka la eego horta Soomaalidu waa ka fiican tahay marka si looga yaani heer bulshooyinka kale gaareen inagu ma gaarin weli lama soo sheegay in Soomaaliya oo gabadhiisa ama gowracaya ama waxyaabo yaani aan la aqbali karin maskaxiin loo aqbal karin ku sameeyay ama aqbalayaba yani gabadhiisa dulmi loo geysanayo yani waxaan oran karaa dhaqanka Soomaaliga yani dumarkeena ma gaarsiin meel xun sida bulshooyinka Carbeed oo kale wadamada qaar oo kale xilliyada Yurub way soo martay dhibaatooyinka noocaas ah Asian kuwa soo mareen ilaa hadda Asian xagga kufsiga iyo waxyaabaha way naga horeeyaan ilaa hadda dumarku way tacadiga waa kala kulmaan iyaga haddana ah wadamo dimuqraadiya ka jirto horumar inta marka laga yimaado anigu yani marka asalka loo noqdo yani qofka Soomaaliga asalkiisa waxa la oranayaa miyi dhaqanka miyiga ayaynu ka cabir qaadanaa yani magaalada waxa la moodaa in waxyaabo badan la isku soo waariday bulshooyin kala duwan isku yimaadaan dhaqamo kala gedisana ay kulmayaan marka inta badan waxa magaalada ka dhaca miyiga kama dhaca tusaalahaan hadda Soomaaliya waxyaabo ugu dambeeyay dhowr sanadkii labadii sano ugu dambeysay kufsiga ciyaalka aad loo soo timinay magaalooyinka Soomaaliya ugu waaweyn bishaan marka la eego miyiga inta ka dhacday miyiga Soomaaliya meel kasta haatee anu ma arag gabadh yar oo aan qaan gaadhin oo kufsi loo geystay yani miyiga ama hadday dhacdayna waa yarta marka magaalada loo eego yani taas waxay ku tusinaysaa markasta asalka miyiga inuu ka wanaagsan yahay dhaqanka magaalada marka si loo eego waagi hore Soomaaliya ama dadkeena Soomaalida ah dumarku bulshada laba rol baa la kala lahaa ninkuna shaqada dibadda la gabadhuna shaqada gudaha lahayd yani hooyada iyo barbaarinta iyo ubadka guriga ka shaqayntiisa iyo taladiisa waxa lahayd hooyada ninkuna wuxuu lahaa geela iyo wixii dibadda iyo cadow haduu soo hujuumo xaafadda iyo wixii fighting of family difaaca buu lahaa wixii tala iyo hadii ay noqoto xitaa dadku qaybta caafimaadkayga noo hogaaminay yani
waxa inta badan waxay sheegaan dhaqanka saddex cilmi baa jiray miyiga oo waaga waqtiga laga cabarqaa jiray waxa la yidhi cilmiga wadaadka cilmiga aftaanka iyo cilmiga haweenka markaa qaybta caafimaadkay lahaayeen oo aadka marka miyiga dadka ugu badan wax daaweyn jiray haweenka ahayd cilmiga caafimaadka intaa markaan ka imaado yani waxaan ka wadaa dhaqankeena miyiga heer dumarkeena uu duleeyey ma gaadhsiin laakiin si waxaa jira waxyaabo yani mas-uuliyadoo kale waxyaaba dumarkeena ay yani roolkii looga baahnaa aanay ka joogin ama wuxuun ha lagu leeyahay taa caqliga oo kale aad soo qaadatay oo ku waafaqsanaya dad badan oo yani wax si guud loo wada aaminsan yahay maaha laakiinse wax propaganda oo yani adhabti lala sameeyey wax reality u jira marka qofka la sheekeysatid hooyada amaa ka caqli liyata marka ku tira isagaa baqisay hooyada iga caqli ama abaha ka caqli wanaagsan buu ka oranaya gurigaba hooyadii buu ku taagay marka waa wax ase propaganda u jira laakiin bulshadii aan mooday inay qaybtay laakiin wax sax maaha reality marka loo eego marka anigu waxaan qabaa dooda laba meelood ba hadda Soomaaliya marka la eego dumarka laga liida labada marka in la yara baahiyo tooshka lagu iftiino waa fiican tahay laba rool bay dumarku ka maqan yihiin marka Soomaaliya loo eego labada rool ay ka maqan yihiin waxa weeye roolka siyaasiga iyo roolka shaqada runta marka la isku sheego yani labada rool ba hadda haweenku ka maqan yihiin roolka siyaasiga ah hortaagan roolka shaqadana cid baa hortaagan cidda hortaagan in la caddeeyo ayaa muhiima tusaale ahaan roolka siyaasiga cid baa u diidan cid baa inta badan daha dabadiisa ka diidan yani haddii la yidhaho qoondada haweenka maanta ha la xidho kursaas ha loo xidho cid baa qaylinaysa haweenka gurigeeda ha joogaan haweenka gurigeeda in runta laisku sheegaa fiican moogtahay haweenka gurigooda ha jooga gurigooda oo khayr badan cid baa markaba soo boodaysa la ogyaha la garanayo sidaas si la mida marka laga hadlayo shaqada cid kale iyaduna soo boodaysa shaqada cid baa yani haweenka guriga ha jooga shaqada guriga nafaqadiisa waxa lagu ogyahay ninka waa marka ciddaas anuma qabo waagii hore yani waqtigii waddanku saalixiyada iska ahaa cidda hore yani barnaamijyadaas inaguma badnayn laakiinse waqtiyada dambe fikra badan oo kala duwan inoo yimaadeen labadii qarnigii u dambeeyey ayuu barnaamijkaas aad u soo caanbaxay marka waqtigii burbur ka dambeeyena hal mid baa dhacday oo saan filayo anigu cabir yaraan sameeyey waqtigii burbur ka dhacay yani dowladnimadii markii meesha ka baxday haweenka iyo ragga ama gabdhaha iyo wiilasha markii waxbarasho loo diray yani waxbarashada markii lacag noqotay odaygu ama wiilkii odaygii xoogaa yar haystay wiilkiibuu waxbarashada geeyey yani gabadhiina wuxuu ku yidhi guriga ii joog ama shaqada ii joog taasina waa dulmi hablaha loo geystay bay ahayd laakiin odaygu mid buu ka eegay yani markuu yidhi wiilka aan geeyo oo waxbarashada aan geeyo gabadhuna guriga ha joogta hadday yani tusaale ahaan hal reer ba waxay wada leeyihiin wiil iyo gabadh marka hal qof bay waxbarashadiisa awoodaan markaba waxaa kusoo dhacaysa odagii islaanta markay shuureeyaan wiilka aan geyn sababtay u geynayaan wiilka marka anigu eegay dhowr waxyaabood bay noqotay tusaale ahaan dhaqanka Soomaaliga waxaa wiilku reer baa tirsada yani qabiilka tusaale ahaan oo kale yani tusaale hadda qabiil marka la tirinayo reerka waxaa la odhanaya qora tirsigiina imisa ahaa imisu reerkaasi jiridaasi ahayd yani raggaa la tiriya haweenka lama tiriyo qabiilka wax nin ilaashado moogtahay nin baa ilaashada nin baa difaaca ugu jira يعني رول دمر ما ترسنايا موقتها رج ريبل رجود وين ترجع يعني قبيل أحمد دمر كإلا جي حكسده بس إذا هذا اللي ليه أضيع لوقا اللي ليه قبل نام مثل كرت أقل كبار لما كانوا قبل مثل كرت ما كانوا قبل مثل كرت مركا ويلكي وحلارني وحبرشة هلا جيو مركا اللي جيو ويل كاس أنا وحبرته أنت جبا وحلاقيه ليا قارن وحلاقيه ليا قبيل كبير علينا يا شرف قبيل هذا يا dhowr reerood oo buubiilaya waxyaabo nacas laakiinse gabadha haddaynu hadda waxbarashada ku geyno gabadhu dhamayso gabadha gurigeeda iyo ninkii guursada iyo carruurteeda dhaqanaysa laakiinse tolkii cidna gabadhu u tegayso qaaraha kama soo qaasa marka yani qabiilkii de waxa moodaa gaab inuu gelaya halka marka xaqiiqada markii noqotana reality markii noqoto la tijaabiyana manfici gabadha iyo wiilkii gabadhiiba manfac badatay because gabadha haddii wax baratay oo bulsho wax baratay yani gabadhiiba waxtarkeedii batay oo sida reality markaan soo ururiyo oo ku dheeraada raalli ahaada markaynu cabdi runta isku sheegno dumarkeen markaan ka imaado waxyaabahan dhacdhacaya hadda kufsiga iyo oo dee maqan meel anu ma garan karo laakiin de waxa aad u xun oo bulshada hableena Soomaaliyeed kufsi lagula kaco waxa aad uga soo horjeeda waxaan ka dhidhiyo waan ka hadlaa aad baan uga horseeja laakiin anu hadda waxaan isleeyahay yani markaan ku soo ururiyo
dumarkeena laba rool bay ka maqan yihiin roolka shaqada roolka siyaasiga labadaa rool sidii aan uga shaqayn lahayn oo kaalintooda uga qaadan leh tusaalahaan weligeen soomaaliya ra-iisul wasaare gabadhi kama noqon guddoomiye baarlamaan hadalkeeda da yani masab siyaasi oo sare roolkii shaqadana way ka maqan yihiin cidda hortaagan aynu isla eegno aynu qeexno yaa diidan fikirka yaa kasoo horjeeda maxaa markaas aynu ka doodno taas xitaa haddii aan mawduuc labaad inaa ka dhigto ugu boorinaya cabdo maadaama aad hawsha adag aad isku xirsaad waayo mucaarad badan iyo rag badan oo dee ragnimada wax ku ilaashada ooba magaraysa ku cadowsanaya khadiijo iyo guruub badan inay kula shaqeeyaan waan rajeeya aniguna qayb baa ka haray marka cabdo marka waad shaqada iyo barnaamijka haysta kugu dhiirigelinaya anuu hooyada waxaan aaminsanahay inay iga caqli badan tahay abahay kasi caqli badan tahay gurigayga iyadu ku dhisnaa saasaan u aaminsanahay taasi waa taa intaasaan kusoo ururinayaa waxaan ka tegaynaa waqti badan baan qaati raalina iga ahaada dhiyarlimaana markuu carabta soo qaadanayeen waxaan wadamada kale waxaan la qabaa anigu dhaqanka soomaaliga dumarkeenu yani heer dumar gabadh soomaaliya la gowraco ama la duleeyo ma gaadhsiin runta marka laga hadlo sida carabinka iyo yeeshiyan yeelay taasi waa taa dumarkeenu suugaanta ka mid ahaayeen taladay joogeen halgankay ka jireen waxyaabo badan meelo badan bay ka muuqdeen laakiin sanadihii dambeeyey fikiro kaloo meelo kale inaga yimi ayaa inagu badan runta markaynu sheegno labadaa rool baan isleeyahay labadaa rool aynu ka dagaalanno gabadhu siyaasiya haynugu matasho shaqadana haynugu matasho gabadho mar ha wada shaqo tagaan waayo hooyo soomaaliyada maadhowda hargeysa ka hadlaysa waxay tiri rag shaqadii iyo lacagtii rag baa haya anigu maxaa guriga fadhiista ay leedihiin markaan israa soo shaqo taga lacagtiina idinka haya guriga anaa fadhiisanaye anaa joogaye bal idinku carruurtii biilkeeda soo habeeya ninkii markuu igaga tago suuqiisuu gelaya mas-uuliyaddii waa krisay dee inay noqonaysa inaan yaanyada u iibiyo marka waan ku dheeraaday raalli ahaada saan fadhiya labadaa rool baa khadiija aadna si fiican baan isu garanaynaa khadiija aad baa kuu salaamayo muddooyinka weli isbilay aad baa kuu salaamaya khadiija walaal macaan waxaynu kusoo xidhaynaa xafsa oo doonaysa mar labaad inaynu fursad siino xafsa miyada iska qaad soo dhawow waa mahadsantahay khadiijo kuma sii dheeraanayo insha allah si dhacaw waqti badan ma qaadanayo waxaan rabaa qodob hadaayo uu ka dhawaajiyey inaa maaragtay sii xoojiyo oo ah in dumarka yacni aan ka aaminsana inay rag ka caqli yar yihiin arrintaas oo kaleeto horta qofkaan wax baranina dadka dhanka caqli yar marka la fiiriyo rag iyo dumar maanta qof aan alif iyo ba midna u xariiqnayn markaad tiraahdo la sheekayso waxba kaagama soo kordhayaan waxaan ka hadlayaa qofka waayo arag ah tusaale waalidiinteena iyo dadkaas maahan laakiin dadka kaleete aan waxba baranayn haddana nolosha raba inay xoogsadaan oo kale waxba kaagama soo kordhayaan laakiin waxaa jirto raggeenna iyo dumarkeenna waxbarashada inay rag badan yihiin waana sababta ka dhigaysa ama u ekeysiinaysa inay dumarkii ka caqli yaraadaan ama loo arko wax nusqaan ku ah dumarkii ragga inay ka caqli yaraadaan oo kaleeto maxaa la dhahaaye sheekadan kale ahayd in carmalka iyadana lagu xifaaleeyo mar haddeeba gabadhi garoob noqoto inay maaragtay qiimaheedi saas ku weynayso waa subject kale u baahan inaan ka hadalno magaca loo yaqaano nimanka aniga kolley deegaankiinaas miyihi marka waxaa la qabaa fikirkii adeerka magaciis baa iga dhumaamaleynaya politicalka soo gelaysay maxamed aa la qabaa sheekada adiga meesha karinla u taqaanaa wax caadiya anaga laakiin political noo noqonaysaa marka maybe magac kale hadduu jiro inuu raadiyo because saa fahmaya adinka ereygaas iyo ereygii kaleete ahaa xila bilaalaaba roomba ama xila guba haddii liska dhihi lahaa xataa wax kale xila gubana waa la yidhaha waa run xila gubaha laakiin waxaan ku maqlay midka guriga yacni dumarka kula maamula exactly cunadii iyo guriga hawshiisii nolol maalmeedkii kula xisaabtama ee maaragtay kula gorgortama at the same time ku xukmiya so kaasaan ku maqlay xila gube marka roolasha kale dumarka ka maqan yihiin sida oo siyaasadda iyo waxaasoo dhan an waxaa aaminsanahay inay wax qabiil ku bees garaysantaa siyaasaddeena iyo qabiilkeena ma kala marna marka arrin qabiil markay timaadana gabar qabiil inay matasho waa ku adagtaa sababto waxaaba dhahna gabadho hal qabiilba ma leh kee ka dhalatay iyo kee guursanaysa inay kala duwan yihiinaa laga yaabaa marka
qabiilkeeda ma mateli karto inkastoo hadda koonto iyo waxaas baarlamaankii ku jiraan laakiin waa arrin dumarka markay qabiil noqoto aysan astaan u noqon karin marka siyaasadeenii qabiilka dhibaatadiisa ka taagan hadalka marab inaa kusii beeday wax su-aal ma qabo commentigaas ku darsanaya waana mahadsantiin dhammaantiin shukran okay xabsi aad baad mahadsantaha walaalo barnaamijku si fiican buu inoogu dhacay iminkana inaynu saa kusoo xidhno waan rajeynaynaa waa mahadsantihiin dhammaan dadka kasoo qayb galay dadka su-aalaha iyo qeybta commentiga ku darsatayba ustaad maxamed barre isagana aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan iyo dhammaan kasoo qaybgalayaashana mahadsantihiin dhammaantiin mahadsanidin aad baad mahadsantahay khadija walaal assalaamu calaykum dhammaantiin assalaamu calaykum axmed